اه هذا وانكم السلام يسولوا ولا شيء. السلام عليكم ورسولوا هذا خيرت. سولوا هذا برسولوا هذا والحسين محمود سولوا برادر علينا سولوا هذا لما سولوا هذا بالخيري ما انت حوغا يربان ربا انام بل شيت. السلام عليكم سجل سولوا يسوع هذا حوغا هلا صوبته حوغا هلا صوبته عبد الله قانوني ninkii Kismaayo wax ku soo qori jiray miyaa talo ninkii miyaa Kismaayo wax ku soo qori jiray okay asxaabteedaan invite gareynayaa talo maxaan ku invite garayaa talo see loo invite garayaa sidee loo invite garayaa كمان تلاقي الناس وقالوا أونلاين لكن ويقلنا قطعي مانت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسولوا هذا خيارته شرفت له ضاد المغشان هاي يسوقرا يا ما أنتوا دور الرماد بان رواينا كهالله وقصاب سن سوماليدن وريرسن إثيوبيا يكونوا سوماليا يكونوا نيكي اللي هذا عبد محمد waa ku salaamay soo dhaw brother ninkan isku magaalada joogno qormad Cabdi la baxday aduna ina Maxmedna qormad la baxday wax kale aan ku yaqaanay iftiin iyo qaran soo dhawaada suhuur soo dhawow Axmed Xasan soo dhawow dhamaantii soo dhawaada waxaan ka hadlaynaa hadii alla idmo dadkan Soomaalida ee wareersan ee geeska Afrika ku nool ku wareeray siyaasadda ku wareeray iyo qolyahan Ethiopia jooga iyo qolyahan Soomaaliya jooga ee labadan moogahan iyo magarahana hayahan Soomaaliya fadhiya iyo waxyaabahan oo dhan baan ka hadlaynaa maanta muddo badan live kama soo gelin baan u maleynayaa asxaabta qaarkeed xataa sida loo kala galo waa isweynaan u maleynayaa war Axmed Xasan soo dhaw brother long time aad baan ku salaamay waxaan rabaa maanta halka horta arinta ugu badan ee Soomaaliya mar raba inaan aad uga hadlo sababtoo tahay Soomaaliya iyadii baa isku wareersan oo isku filan ma garatay qodob kale wareersan ee ku nool Ethiopia baan rabaa inaan ka hadlo hadda Oromadu ay qabsatay iyo wixii bal dadkan la gudboon arrimaha xasaasi ana waan ka hadlayaa oo sir ah marka aan leeyahay arrimaha xasaasi oo sir ah waxa weeyaan xog baan u maleynayaa idinka idin anfacaysa inay tahay dadkana aad ku wargelin doontaan haddii alla idmo waxaan ka hadli doonaa jahwareerka ummadan haysta dadkan haysta kuwan qurbaha ku shiraya ee shararka haysta qoladan jigjiga joogta waxaan kaloo xog idinka hayaa shirkii ka dhacay magaalada Gurgo'an agteeda ahayd liyu booliisku dhan ay isugu tageen iyadana xog fiican baan idinka hayaa iyo wixii ka soo baxay shirkaas iyo xaaladdu meesha ay marayso waxa weeyaan in badan baan horey waxaan u sheegay oo aan uga hadlay dadkan Soomaalida ah warnimayo dadkan Soomaalida oo khatar bay ku sugan yihiin ama ha ku noolaadaan Ethiopia ama Soomaaliya ha ku noolaadaan laakiin dhibaatada ummadda Soomaalida haysata waxay tahay dadkooda caqliga xun ee siyaasiyiinta iyo shacabkooda dhagaha ay haysata waxay tahay dad wax qaadanaya ama wax maqlaya ma aha dad wax qaadanaya ama wax maqlaya ma aha waa dad riyo ku nool waa dad khiyaali ku nool waa dad dhibaato ku nool ma fahanti waxaana cadowga ogaaday dadkan Soomaalidu inay yihiin dadka iyagu isdila ay yihiin dadka iyagu isdila inay yihiin dadka la rabo in iyaga la isku isticmaalo iyaga inay yihiin dadka la rabo in la isku baabi'iyo iyaga inay yihiin waxaan rabaa qolyahan ka hadla DDS ee aad u taageersan maamulka kilka bal iyaga inaan su'aal weydiiyo oo dhaho
ورلباتن iyo dhowr sano baa dadkiina idinku aleeynayeen maxaa natiijo ama wanaag ah ay maanta idin hayaan EPRDF maxaa la idin hayaa dadkiina baad yaalayseen ood ku dul dhaantayseen dirgax ood ku dul dhaantayseen maantana baroor baad ku jirtaan baroor ma fahanteen baroor baad ku jirtaan maxaa la idin ogol yahay ma fahanteen Ethiopia maxaad ka tihiin maxaad ka tihiin dadka bini aadamku gaaladu marka ay tiraahdo dadka Afrikaanka oo aqliga futadu ka galay marmarka qaar kood anu waxaan dhahaa waa run Soomaaliya waa run baan dhahaa sometimes ma garatay sababtay tahay ninka isagu aaminsan walaalkii inuu wax ku noqdo oo uu dilo oo walaalkii darajo ku gaarayo ee walaalkii raba inuu xiro oo walaalkii raba inuu baabi'iyo ee haddana maanta raba in loo hiiliyo maxaa loogu hiilin karaa dad badan ba hadda waxay dhihi oo aad ugu doodayaan maamulka kilalka waa in la garab istaago oo loo hiiliyo okay aynu hiilinay oo garab istaagnay maxay noogu hiilinaa maxaynu la qabanaa ma fahanti ma oo hiilin karaase tabar ninka Mareykanka dabadiisa jooga Ilaahay baa ku dhaarshiyay ama Canada dabadeeda jooga ama Australia dabadeeda jooga maamul kilalka muxuu ugu hiilin karaa Oromo ma kala hadli karaa ma ka difaaci karaa idin ka weydiiyay hadda aqliga saliimka loo baahay inuu shaqeeyo ma fahanti ma ka difaaci karaa ninka qurbaha hadda jooga ma fahanti ma ka difaaci karaa xalay toole magaalada Nadan shir baa ka dhacay waxay rabaan inaan idin sheego shir official ma ahayn wuxuu ahaa shir wuxuu iska ahaa xogaa dhalinyaro ilaa 20 ilaa 30 qof ay isugu timid oo casuumaad ahaa personal ahaa shirkii noocaas ahaa baa la igu yeeray waxa la igu yiri su'aal baa la weydiiyay waan idin sheegayaa su'aashii la weydiiyay waxa la igu yiri niyow shirkan anaga kuugu casuunay niman dhalinyaro ah anu martibaan ka ahaa qabanqaabeena shirka ka baan ahayn waxa la igu yiri niyow xaaladii wadanka waad u jeedaa wadanku suu yahayna waad u jeedaa sidayna ugu helinaa baa la yiri maamulka kilalka anu jawaab yar baan siiyay waxaan maamulka kilalka aynu u helinay iyagu yaa noo damaanad qaaday inay noo heliyaan soo xaqiiq ma haddaynu u helino yaa damaanad noo qaadaya inay annaga noo helinayaan iyagu biritoole ma fahanti ilmaha reelo waxaa la yidhi gaalka dil baa la yidhi gartiisana sii yaa damaanad qaadaya iyagu inay noo heliyaan yaa damaanad qaadaya maamulka kilalku iyagu inay mataqaanaa dadka talada ay ku soo celinayaan yaa damaanad qaadaya cid damaanad qaadi karta oo Ilaahay abuurtay ma jirto ma fahanti cid damaanad qaadi karta oo Ilaahay abuurtay ma jirto waa reality walaaleel dadku dhan soo casuumay dhalinyarada dhan soo casuumay waxaan rabaa arrimo badan oo xasaasi ah inaan idin sheego oo wacyigelin guud ah dadkuna dhalinyaraduna waxay u baahan tahay inay wax badan fahmaan oo iska weydiiyaan marka qof walba share garee oo maqlaya qof walba asxaabtaada soo casuun insha Allah taala fasax baan isaga jiraa maanta marka sidaas daraadeed baan waqti yar u helay waxaan idhi bal dadkii la wadaag fikirkaaga iyo taladaada iyo caqligaaga waan ogahay dad badan oo caqli badan oo fikir wanaagsan oo aqoon-yahan ah yaa qurbaha ku wada nool laakiin qaarkood ma rabaan inay hadlaan laakiin annagu waxaan isku daynaa intanadan ardayda iska ah ee xogaa yar wax yar ka uu bilaabay yahay inaynu fikirkanaga iyo taladanada ka dhiibano okay waxaan rabaa marka dadkan Soomaalida ah ee qabiilku waxa la yiraahdo uu gumeystay qabiil baa gumeystay dadka Soomaalida Ethiopia ma gumeysato Kenya ma gumeysato Arabna ma gumeysato anu waa sidaan u arko ra'yi ahaan dadka Soomaalida iyaga isku gumeystay qabiil bay isku gumeystaan marka ay ka baxaan mushkiladda ama dhibaatada ay ka baxaan qabiilka isku gumeystaana umay adduunka la jaan qaadi karaan oo wax la qabsan karaan Soomaaliya reality markaan ka hadalno markaas umay wax ka qabsan karaan laakiin inta ummadan Soomaalida ay fikirkan xunka ah ee ciriiriga ah ee qabiilka iyo qabyaaladda ah iyo qofkan jaahilka ah ee waxna baranin waxna akhriyin uu hoggaan u yahay ama siyaasi u yahay Soomaaliya
ummadda Soomaalidu dhibaatadaas kama baxayso weligeed inta ay adduunyada nooshahay adduunyada inta ay nooshahay dhibaatada kama baxayso waa reality-ga sida ay tahay waaqiciga dhabta ah ani marka seen wax u arkaa marka Ethiopia waad aragteen waad dhageysateen ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia waad dhageysateen Soomaaliya waraysiga uu dhiibay hadalka uu dhiibay baan rabaa inaan wax yar idin ka taabto hadalka uu dhiibay aniga ra'iisul wasaaraha Ethiopia cusub waxa iiga baxay inuu yahay ra'iisul wasaare khatar badan xambaarsan ra'iisul wasaare khatar badan xambaarsan inuu yahay aniga iiga baxay waan ogahay arintaasi dad badan bay dhibaysaa haddaan hadalka dhaho waan aqaanaa Soomaalida dabeecadooda iyo dhaqankooda sababtu ay tahay dadka Soomaalida iyagoo qof ku xumeynaya yay nin kale oo taageeraan oo iyaga noloshooda iyo jiritaankooda oo xun ma fahamtay ay taageeraan qaar baa ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxay ku taageerayaan kaliya Cabdi Ilay nacayb ay u qabaan ورئيسul wasaaraha Ethiopia Cabdi Ilay wuu ka qaaday xilka laakiin mid isaga uu wato oo kale to Cabdi Ilay oo kale aan u buukeenay xilka waa reality markay meesha timaado ma garat reality markay meesha timaado laakiin ninkaasi uu keeni doono saala ahaan adiga ma wanaag buu ku soo wadaa ma xumaan buu ku soo wadaa ma ka xisa dhanka ma ka fiiris dhanka ma ka qiimeys Soomaaliya dhanka ma ka qiimeys Soomaaliya dhanka kama qiimeynin ee adiga waxa ku cad oo kaliya ninkan ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo ugu faraxsan tahay oo kaliya inuu yahay nin Oromo ah oo wanaagsan oo Oromada aynu isku dannahay oo aynu darisnahay oo aynu isku waxnahay that's the reality ma fahanti waa la socotaan baan u maleynayaa Soomaaliya tusaale yar aan u soo qaato Xasan Sheekh markii doorashadu ay dhacaysay waxa la lahaa Ilaahay baa na dhaafiye Xasan Sheekh ilaa farmaajo afarta qaaradood baa la iskaga dabaaldegay lama socotaan maanta xageey maraysaa Soomaaliya marka waxay maraysaa farmaajo hay maqashiinin xataa in la dhaho dadkii ay dhahaan farmaajo magaciisa habay maqashiinin waayo Soomaalidu kama fikirin bal farmaajo muxuu soo wadaa kama fikirin Xasan Sheekh nacayb ay u qabaan ay farmaajo ku taageereen nacayb ay Xasan Sheekh u qabaan ma fahanto qoliyaha oo lafta taageersan waxay ma taqaanaa farmaajo u soo dhaweynayeen Xasan Sheekh baa nacayo jijiga tagay laakiin farmaajo intuu qabtay buu xirxiray oo Ethiopia u geeyay ma garat Soomaaliya labadooda ka daraa markay kii ay iyo kii ay iyo kii qabtay ka daraa ma baatay marka waligiin horta nin aydan ogeyn waxa ka dhalan doona durbaan hawtu mina Soomaaliya anu taas aan ilaahay ninkan Oromada ah ee aynan ogeyn waxa ka iman doona dadka sawirada saartay ee u dabaaldegaya kaliya waxay ugu dabaaldegayaan kaliya Cabdi Ilay buu bedelayaa ma fahanti Cabdi Ilay kaliya uu bedelayaa bay ugu dabaaldegayaan hadafkoodu ama mustaqbalkoodu ama aayahoodu meesha intaas kaliya ayuu ku egyahay wax kale ma aha Soomaaliya aniga macnaheega waan ogahay dadku meel yar bay wax ka fiiriyaan waxay ka fiiriyaan qaar baa hadda waxay dhihi Cabdi Ilay buu qabiyaalad ku taageerayaa qaar baa saa dhihi waan ogahay Soomaalidu leen qabiilka iyo xumaanta iyo waxaas ka fikiraan moogta war Cabdi Ilay aniga reerka nagu laayay aniga my family gu leey aniga kula hadlaya reerka nagu laayay ma fahanti ma umaleynaysaa ninka reerka naga laayay anu qabiyaalad inaan ku taageerayo aqal xumidiina ma fahanti laakiin anu waan ka waan ka aragti foga sababta aan ka aragti fogahayna waxa weeyaan waxaan qabaa dadka Soomaalida waa lagu ciyaaraa mooyaane kolba nin la soo tababaray baa loo keenaa ma fahanti kolba nin la soo tababaray baa loo keenaa ilaa waa dad masaakiin oo ma taqaanaa lagu ciyaaray ma fahanti lagu ciyaaray waxaana laga yaabaa bal hadalkan Ilaahay iga qora waxaana laga yaabaa oo suurtagal ah Cabdi Ilay laftigiisa aad aragteen inuu janno noqdaba waa suurtagal ogaada
possible haddii inaad aragteen inuu janno inuu noqdona waa suurtagal ma fahanti wallahi oo billahi oo tullah oo mid ka gaalsan oo ka gaalgaal dhalaysan oo la keeno ma fahanti marka waxa weeyaan wax aynaan war u haynin horta yeynaan durbaan u tumina dhalinyaradan Soomaaliyeed ee ku nool geeska Afrikana si guud baan rabaa inaan ula hadlo si gaar ahaaneedna waxaan rabaa inaan ula hadlo dhalinyaradan ku nool deegaanka Soomaalida ku nool baan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo dhalinyaradan guud ee Ethiopia ku nool waan ku soo qabanayaa guuleed ballan way halkan ay maanta ku shirayna dhalinyaradan sheergareeya fadlan dhalinyaradan guud ee geeska Afrika ku nool Soomaaliyeed anu waxaan leeyahay wadankiini khatar buu ku jiraa iyo jiritaankiini wadankiini waxaa helay dilaaliin baa heshay wadankiini waxaa helay cadow badan baa helay wadankiini waxaa helay siyaasiyiinta reerkiina ee reerkiina matala nin walba ayaa wadankiini helay nin walbana lacag buu aruursanaya hanti buu aruursanaya wadankana wuu gadanaya believe me guys Soomaaliya ka soo bilow wasiirkii arrimaha gudaha isagoo jooga balad xaawa yaa xilka laga qaaday aqal xumida dadka Soomaalida dhalinyarada Soomaalida ay xataa wax fahmi laayeen waxa weeye war wasiirkii dekada balad xaawa joogay derbiga soo indheynay muxuu khayra iyo farmaajo ay xilka uga qaadeen bal ilaahay baan ku dhaarshiyay idinku horta taa mees weydiiseen aqalku dabada miyuu ka galay mees weydiiseen waa ballan soo qabanaya mees weydiiseen labo dekada berbera iyo dekada Boosaaso ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu yiri shalay toole daraato wuxuu yiri labada gobol buu yiri Soomaaliya way ka go'ayaan labada gobol Soomaaliya way ka go'ayaan buu yiri mees weydiiseen BBC Soomaaliga ahayd shalay toole wada arkayseen mid aanu malayn inuu mental health problem qabo oo maskaxda laga jiro ambassador baanaha Soomaaliya baanahay oo ka hadlaya Ethiopia ka hadlayo oo leh ma taqaanaa ii sheegay Ethiopia waa dal diversity dadkan horta Soomaalida waxa wareeriyay aqoonyahan aan waxba fahansanin oo afar xabo oo Ingiriis oo broken ah soo bartay markaas la dhigay war ninkan waa aqoonyahan oo waa wuxuu leeyahay baa la oranay baalkii meelahan qurbahana ka aha taksiilu ka aha Soomaaliya meelahan qurbahana taksiilu ka aha oo qaarkood hilibkay qali jireen lo'da ma garatay suud xun oo beena intii loo wada xidho waa niman qandaraaslayaal ah oo tuug ah oo raba Soomaaliya oo dhan inay iibsadaan ma fahantay xataa dhulka badda iyo dadkaba inay iibsadaan raba guys believe me ma fahantay annagana waxaan helay kuwii oo kale oo ma helay ma fahantay kuwii oo kale ayaan helay rag fara badan oo khiyaar ah oo aqoon-yahano ayaa la soo qabo waana soo qabanaya igu jira khadka ragiinan khiyaarta waxaan rabaa waa ballan waa Maxamed ustaad adaan kow kaaga bilaabaya ma garat marka waxaan rabaa Soomaalidan dhalinyaradan Soomaaliyeed war inaad fikirtaan horta aqligiina dib ugu shaqeysaan waxaan rabaa inaan idin sheego geopoliticska siyaasadda geopoliticska ay geeska Afrika ka socota geeska Afrika Soomaaliya iyo geeska Afrika waa threat baa lagu yahay run baan idin sheegaya dhalinyarada inaydan waxba akhriin baa laga yaabaa inaydan wax badan la soconin baa laga yaabaa walaalayaal dadka Soomaaliyeed dhulkiisa iyo dadkiisa waa loo tashaday run baan idin sheegaya waxaana u tashaday adduunka u tashaday 2025 meesha loo gaaro 2025 meesha loo gaaro xaaladda Soomaaliya ee hadda joogta haddii ay sidan ku sii jirto ama Ethiopia ilaa Soomaaliya waa la qabsanayaa dadka Soomaaliyeed waana la maamulayaa khayraadkiisana waa la qaybsanayaa dad la soo diyaariyay baana maamulaya Hamid Karzai oo kale baana laga keenayaa Mareykanka iyo reer galbeedka laga keenayaa ma fahanti Hamid Karzai Ethiopia iyo Kenya they are on the headlight ma fahanti headlight ayuu ku jiraan dad baa hadda waxa laga yaabaa inay dhahaan warniyo Ethiopia Kenya waxa degan inaga degan oo reer hebel ah degan maxaynu ka rabnaa ma in Ethiopia Kenya aynu la qabsano wax ka qaybsano yes it's true Soomaalidu waa tiina soo xidhaysay waa tiina soo dilaysay waa tiina soo qabanaysay dad baa laga yaabaa inay dhahaan waa runtood Soomaalidu asxaan nooma falin dadka Ethiopia degan Soomaalidu asxaan uma falin Puntland baa laga soo dhiibay Somaliland baa laga soo dhiibay Xamar baa laga soo dhiibay qalbi dhagax baa u dambeeyay oo farmaajo iyo khayro
ay soo qabteen waxaasoo dhanna waxa loo sameynayay wax kala ma ahayn dadka Soomaalidu inuu isnaco uu kala fogaadaa loo sameynayay waxaasoo dhan in dadka Itoobiya ku nool ee Tigjiga ku nool iyo Qabridaariya ku nool la ogoleysiyo Itoobiyaanimada oo ay ku faanaan oo dhahan anigu Itoobiyaan baan ahay ku faanaan ya waxaasoo dhan loo sameynayay ma garata oo ay Soomaalinimada nacaan ma fahanti arintii noocaas ahayd ma lagu guuleystay markii mise laguma guuleysan yes waa lagu guuleystay iska daa wax kale hay-adihii Soomaaliya ee xamar ka jiray ayaa ninka Axmaariga ku hadla ya shuruud laga dhigayaa in laga waxeeyo waa run gabdho badan oo hadda halkan ku jira iyo wiilal badan oo halkan ku jira waxay lahaayeen markii qalbi dhagax la soo dhiibay waa sax bay lahaayeen qalbi dhagax in la soo dhiibo waa sax waa nuqtaageersanahay bay lahaayeen because of wax kale oo meena lahayn waxay lahaayeen danta maslaxada Soomaalida ku jirta in qalbi dhagax la dhiibo okay waayahay qalbi dhagax waa la dhiibay maxaa isbedelay ma fahanti maxaa ma taqaanaa ii sheeg dhacay ma fahanti marka reality waxa weeyaan wax dhacay oo Ilaahay abuurtay ma jirto Soomaaliya sidoo beta farmaajo waa kii soo qabtay ee qalbi dhagax soo qabtay iyo ay soo dhiibeenay maxaa abaal ah oo Itoobiya ugu haysa khayriya farmaajo wax ay wanaaga ugu haysa ma aragteen ma fahanteen ma jirto wax wanaaga ugu haysa ma jirto wax abaal ah ugu haysa ma jirto reality waa noocaas waxaan rabaa marka dadka Soomaalida ee dhalinyarada ah inaan u sheego laba arrin Soomaaliya waxaan rabaa inaan idin sheego reality waxa weeyaan mustaqbalka caruurtiina iyo ilmihiinu mugdi buu ku jiraa wali laakiin waxa leeyahay natiijo aad isku daba qabataan ma fahantiin mustaqbalkiinu khatar buu ku jiraa caruurtiinu mustaqbalkeedu khatar buu ku jiraa laakiin inaad isdaba qabanaysaan anigu qudura uma maleynaya inaad leeyihiin aqligeeda maskaxdeeda iyo kartideeda inaad leeyihiin sababtu tahay qabiilka idin kala weyn Soomaaliya qabiilka ayaa idin kala weyn waayo waxa weeyaan maanta ninka reerkiina ay qabiilistaha ee tuuga ah idin yimaado oo idin dhaho anaa wax idin wada aaminaysaan wana idin gadanaya ninkaas wana nin idin gadanaya hadda ma fahanti wana nin idin gadanaya ma fahanti wana nin idin gadanaya wana aaminaysaan that's the biggest problem dhibaatada ugu badan waa kaas ma fahanti dhibaatada ugu badan waa taas ka idinka idin leynaya waa qabiilkiina ka dadka dilaya waa qabiilkiina ka umada baabiinaya waa qabiilkiina ka wax dhibaato jeelasha idin gelinaya waa qabiilkiina war kan intaasoo dhibaato ah sameynaya sida aad qabiil ahaan ugu difaacaysaan isagu ma ugu naxo qabiilkiisa ma ugu naxo idinku sida aad qabiil ahaan ugu difaacaysaan inta kaliya xataa dadka Soomaalidu waa garan laaya okay Soomaaliya oo dhan dhulka Soomaaliyeed oo dhan ilaa Djibouti baa laga yaabaa inay ka badbaado run baan idin sheegayaa sababta Djibouti waxay ku jirtaa protection of French protection bay ku jirtaa Faransiiska ayaa ilaashada laakiin Soomaaliya inteedii kale oo dhan dhulka Soomaaliyeed inteedii kale oo dhan waxa weeyaan walaal waa la qaybsanayaa waana loo tashanayaa khayraadkiisana waa loo tashanayaa waana la qaybsanayaa ma fahanti arintaasna waxa fududeynaya dadka Soomaaliyeed baa fududeynaya madaxda Soomaalida fududeynaysa waxa fududeynaya siyaasiga Soomaalida fududeynaya waxa fududeynaya qabiilooyinka Soomaalida fududeynaya waxa fududeynaya ummadaas fududeynaysa ma fahanti Soomaaliyeed ma fahanti waxa weeyaan kuwaasaana wax ka qabanaya ma fahanti the reality marka waxa weeyaan dadka Soomaalida marka lagu adeegto iyo wax gartaan marka lagu adeegtay wax gartaan hadda niman liyu booliis la dhaha ka jiray jigjiga ka jira waa lagu adeegtay sidii la rabaa laga yeelay sidii la rabaa laga sameeyay waxa la yiri dadkiina xirxidha way xirxidheen dadkiina laaya way laayeen xagga lubooda way sameeyeen haddana maxaa laga hadlayaa hubka sidii looga dhigi lahaa eega hubka sidii looga dhigi lahaa baa haddana laga hadlayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya waxa ugu horeeya waxa weeyaan hubka in laga dhigo liyu booliiska ma fahanti waliba la soo qabto kuwii madaxda u ahaa liyu booliiska qaarkood intii la soo qabto maxkamad la saaro oo jeel la wada geeyo laakiin
ka oromada ahaa ee dadka shacabka leynayay ee shacabka isagu leynayay cid soo qabanayso ma jirto sharci soo qabanayo ma jirto sababtoo waa nin laan dheera 40 milyan weeye Ethiopia walaalkiina waa ra'iisul wasaare dadka Soomaalida waa nooca caqligoodu marka ay sida ay wax u fahmi laayihiin waa taa weeye walibana kuwa hadda diyaar waxay u yihiin kuwa Soomaaliya hadda diyaar waxay u yihiin kuwii oromada ahaa ee laftigooda dadka leynayay inay intay qabtaan ay kuwa Soomaali oo kale ay u dhiibaan oo laayaan oo dhahan annaga hubku noo dhiibo liyu booliska annaga nagu bedel annaguna aanu layno Soomaaliya iyo kuwa Soomaaliya diyaar u yihiin oo suudad u xidhanayaan oo u diyaarsan yihiin Soomaaliya waxyaabaha la yaab kale عجبته ما عندي مركا تدكن Soomaalida iyo marka aan dhaho anigu Soomaalidu dabadu caqliga ka galay Afrikaanku waa nooca daanyeer fiiri waxa yar baan idin sheegaya daanyeer haddaad u dhiibto haddaad daanyeer halka u dhigto aad u dhigto moos iyo lacag halka haddaad u dhigto daanyeerku wuxuu qaadanayaa mooska caqligiisu kuma fikirayo lacagtan qaado 2 kiilo moos ku soo gado uma fikirayo Soomaalidu waa nooca caqliga daanyeerka leedahay ma fahanti haddii halka loo dhigo xukun iyo kursi oo nin dalkiisa iibsanayo uu u dhigo xukunka iyo kursigaas ay qaadanayaan ma dhahayaan Soomaaliya ma dhahayaan war ninkan muxuu xukunka kuugu dhiibay ma dhahayaan isma weydiinayaan ma fahanti wallahi billahi tullahi waa noocaas caqliga daanyeerka Soomaalidu leeyihiin ma fahanti ma dhahayo war kursigan iska daa dalkaaga ilaasho dalkaaga wax weyn ku heli kartaa oo dhulkaaga ilaasho oo ummadaada ilaasho dhihi mahayo Soomaaliya kursigaas u fadhiisanaya wuxuu leeyahay wax aniga la bijirto Hitler baa la weydiiyay waxa la yiri Hitler baa la weydiiyay oo la yiri waan ku soo tuujinaya ugaas Hitler baa la weydiiyay waxa la yiri dadka ka ugu caqli xun baa leeyahay dadka waxa ugu caqli xun buu ninka igu caawiyo dalkiisa iyo dadkiisa inaan laayo oo qabto ma fahanti marka Hitler dadku sheegay Soomaali ma aha marka ilaahay ku dhaarshay sababta madaxda Soomaalidu iyo siyaasiyiinta Soomaalidu wadadooda nooca Soomaaliya wadadooda nooca ma fahanti wadadooda nooca okay oromadana ku soo hadhay marka nimankan oromadu anu credit baan siinaya I give them credit reality oromada I give them credit sababta waa niman rag way shaqaysteen way tashadeen ma fahanti way shaqaysteen Ethiopia sankay qabteen sanka ma fahanti sankay qabteen sanka waxay Ethiopia u qabteen in ay xukunka ku fadhiistaan way shaqaysteen I give them credit run baan wadiin sheegaya maanta iyaga la baraya Oromo Prime Minister Fiiri wasiirka arrimaha dibadda waa Oromo ra'iisul wasaaraha waa Oromo wasiirka maaliyadda waa Oromo waxoo dhan bay isku darsanayaan Oromo way shaqaysteen laakiin siyaasiga Soomaaliga muxuu ku mashquulsanaa siyaasiga Soomaalidu qudur qabri daara waayo waa nin reer hebel reerkooda xagee joogan halkaas soo qabta jeel galiya muxuu ka faa'iiday ilaahay ku dhaarshay maxaa caqli ah oo ka faa'iiday ma garatay muxuu tala iyo caqli oo hayaa ma fahanti siyaasiga Soomaalidu muxuu ka faa'iiday qabiil buu ka faa'iiday ma fahanti in qabiil la isku naco ummadda la kala fogeeyo eega waad aragteen hadda qolyo qurbaha joogo oo la dhaho dulmadiid ريا علي يوسف واحد كلا كما هلان قبيل بك هلان وواحد وبروجرامينج وحلو قال سومالدو قبيل كإنه ونقشهي قبيل إنه يسكن عن قبيل إن مدح السوق اليو ما فهمت كما فكريان والريال علي يوسف دبعتنا ماشى كده علي يوم مسؤول كمان عهين أفرنين أو ريال كودا يا حكم كتير toban Oromo aba oo madaxaba dadka way laayaan wax Oromo waxba la yeesay ma aragteen kama fikirayaan waa plantation waxa weeyaan waa nooc kamid ah dadka in la kala fogeeyo la isnaco dagaal qabiil la abuuro qabiil madaxa dadka la isku wada geliyo reer Ali Yusuf marka maxay sameeyaan reer Ali Yusuf waxay u arkayaan in niman reer hebel la dhaho oo dulmadiid u badan ay duulaan ku yihiin oo nacab yihiin bay u arkayaan Soomaa Ethiopia ku hadhay marka reer Ali Yusufna uu yeeri
qoladan dulmadiidna uu yidhi labadaba hub bay siini idinku islaaya dhihi qoladan dulmadiidna hub bay u dhiibi qoladan reer cali yuusufna hub bay u dhiibi waxay dhihi islaaya annagu waa idin daawanaynaa ma fahanteen ya annagu waa idin daawanaynaa markay ay islaayaan koodii soo hadha iyo leeyahay haddaanu ku xukumaynaa raalli noqo waryahay ma fahanteen سمعنا سان كمودي متي من علوس بعتها محمود عدنانيو سوماليدا dhibaatada haysto waxa weeyaan dadku waa loo kala sheekeeyaa ninba maalin weyto nin aqooyahana oo dhalinyarada wadanka ka soo baxday ah oo Nairobi joogu yiri niyo ninkaas iyo adiga dood idin qabanaya ee wada hadla ninkii baa igu soo warceliyay marka sheekada la yaab kale dhageysta qosolka ah ninkii baa igu soo warceliyay waxaan warniyo ninkii muxuu ku yiri markaas wuxuu yiri warniyo ninkii wuxuu yiri ninkaas qudura anu lama hadli karo sababta tahay ninkii hebel ahaa baan Yurub ka wacayo wuxuu yiri ninkaas waa nin tuug ah waa xaq jir waa on laf baa madaxa ka gashay waa nin waalan waxa weeyaan nin wax fahma ma aha iska ilaali waa wada nooca Soomaalida waa loo kala sheekeeyaa iyagu ma wada hadlaan face to face ma wada hadlaan ma garat ma wada hadlaan ma fahant waxaan ku yiri sidaas hadduu ku yiri baan ku yiri oo muxuu noo lahaa baan ku yiri nin master degree wato oo jaamacad ka soo baxay oo galan jabiyay oo aqoon-yahanaan ahaa hadduuba nina waxba akhrinin uu dhageysanaya baan ku yiri boogta dhibaatada Soomaalida aqoon-yahankeeda haystana waa nooca nina waxba akhrinin waxna qorin baa wax u sheega ninkaas la taliyo oo ma fahant ku aan waxba akhrin ku aan waxba qorin yaa la taliyo oo kaasa advisor oo ma garat kaasa advisor oo waa dhibka umada jira oo soo qabanaya guulada walaale marka waxaan rabaa inaan idin sheego dhalinyaradiina wadanka joogta barka ee qurbaha joogta inaan maskaxda kaga shaqaysiinaa la rabaa 20 sano kadib oo dagaal lagu hoobtay oo ONLF iyo Ethiopia uu dhacay oo dagaal lagu hoobtay oo Ethiopia iyo Liu Boolice uu dhacay what we have maxaynu haynaa maanta marka maanta wanaynu isweydiino ma ka fikiraysaan laakiin 20 sano iyo 30 sano dagaalka wax kaleba looma wadine waxa loo waday wadanka inuu in yar oo dad ay ku soo haraan intaana la maamulo oo wadanku cidlo noqdo ma ka fikiraysaan adduunku ilaa wuxuu marayaa siyaasaddu nooc walba gashaa waxaa jirta adduunyada hadda waxaa jirta wax la yiraahdo ii sheeg medical ma taqaanaa hay soo wicin ma ka fikiraysaan midaas ma fahanti taa ma ka fikiraysaan waa maya ma fahanti ma laga fikirayaa ilaahay baa idinku dharshiye dagaal indilas ah oo ma taqaanaa ii horta hal arrin baan rabaa inaan idin sheego oo aan dhamaanin natiijada laga dhaxlay iyo wax laga dhaxlay ma u maleynaysaan inaan u baahannahay inaan dib isugu laabano oo fikiro oo caqligeena iyo maskaxdeena aynu dib u fikiro oo la helo dad scholars oo aqoon leh oo fikira oo ummadda iyo dalka iyo dadka u fikira fadlan share gareeya fiidiyoga waan ka codsanayaa akhyaarta sharafta leh Cabdigarin please stop waxaan muxuu ahaa gaaray xariis blog waan ku qabtay okay hadda ma la maqlaa akhyaare ma la maqlayaa haddii la maqlaa hay soo qora okay ma blog waan saaray bade waxaan ma fahmayo waa anuu hadda ninkan waxaan u fahmay ninkan idinku hadda si kala laga yaabaa inaad fahantaan laakiin anuu waxaan u fahmay ninkan waxaan nin ma aha waa cadow weeye waa nin cadow ah waxaan aan idin sheegayo diidan yahay dadka inaan fahansiiyo ma fahanteen Soomaaliya that's what I am my understanding reality waan idin sheegayaa ma fahanteen waxaan aan idin sheegayo ayuu diidan yahay inay dadku fahmaan walaalayaal ma fahanteen dadku inay fahmaan inay dadku noqdaan ma taqaanaa dad wacyigooda wax loo sheego dad wax fahansan inay noqdaan ma fahanteen reality waa nooca taasuu diidan yahay marka waxaan rabaa inaan idin sheego maanta si fiican baynu u sheekaysanaynaa waxaa laga yaabaa muddo badan inaanan soo gelin khadka aanan soo gelin
qorqoradayadana waan iskaga dhex jiraa iga raali noqda bahalkana waan ballaarinayaaba ma fahanti ruuxa muxuu ahaa ma la maqlayaa haddii la maqla haa soo qora ma la maqlaa okay maxaa iga tagay okay marka waxa weeyaan nimankan Soomaalida ah marka waxaan rabaa inaan ii sheego sidii hore aan u daayay miya sidoo noqotay baan garan laahayba si ay noqotaan garan laahayba waxba iga si aniyo teknolojiyada anu oday weyn baan hayo kuma fiicna moofta hadda soo caadi ma soo ima jeedaan okay marka dadka Soomaalida ahi waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo ii sheeg waxay u baahan yihiin inaan wax badan ay fahmaan waxa yariisu mobilkan meel saaranayaa akhiir mobilkan meel saaranayaa waxa yara la ii sugo akhiiray waxaan farsamadan Cadnaan baa ku dheereeyay anoo ma naqaan isaga habeen iyo maalinba meeshan master ku diyaariyay ma fahanti isaga habeen iyo maalinba master ku diyaariyay isaga waxaan yaqaanay waxaan baasniyo ya ma la maqlaa haddii la maqlaa hadda haa soo qora iga raali noqda wax yaray bahalkan raba inaan wareejiye والله ما وريتين لا هاي بس هو الدبي anyway ساسان وهينا يا مرك waxa ma wareejinaya marka ninkan muxuu ahaa ninkan qolyahan kilalka ah marka ma la maqlayaa hadda ma la maqlaa akhyaaray qolyahan marka kilalka maanta maxay hayaan taydii baan ku soo laabanayaa doodaydii hore waxay hayaan oon ahayn waxa la yiraahdo والبهار ما يجرت والبهار waxaan ahayn oo hayaan ma jirto dadka Soomaalida hina walbahaarka aan bay iyaguna qabaan sababtay tahay malaha dad siyaasiyiin ah oo adag malaha qoladan Oromada ku soo hadhay qoladan Oromada ana waxaan u maleynayaa inay yihiin tukaha waa taqaanaan Soomaa tukaha waa taqaanaan qoladan Oromadu waa tuka nasiib badan oo meel ka helay nasiib laakiin umalayn mahayo inay leeyihiin karti iyo aqligeedii ay ku hanan lahaayeen sababta magaaladan aan joogo hadda iyo waxayba ka bilaabeen buuq waan ka fadhin laanahay durba waan ka fadhin laanahay Oromadii qaylo iyo dagaal iyo baqbaq Soomaaliya yaan uga fadhin laanahay ma garat mar Oromo bal isdajiye bal arintu wali weeye Oromo wali weeye arintu bal Oromo bal usiga bal Oromo bal usiga Oromo bal wax yar usiga bal Oromo usiga ma jirto waa baq ma garat waa ka fadhin laanahay baqbaqdoodii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Ilaahay naxariista ha ka waraabiye ya kibir waa lagu jawaabaa la yiri kibir moogta kibirki waa lagu jabaa ma fahanti marka Oromadiina waxaad noodaaba hadda inay tii wado ma garat waxa ku soo haray qolyahan wali toole dreamka ku jira ee riyada ku jooga ee hadda qolyo waxa ku dhihi ubo Ilaahay baan ku dhaarshiyay ninka maanta taagan ubo taagan ka warrama ninka maxaan weydiin lahayn oo aqli iyo tusaale ah ninka maanta ubo taagan ninka ubo taagan maanta aqliga iyo talada aad weydiinaysaa ninkaas muxuu yahay ma maanta ninkaas muxuu yahay waa dadka aan leeyahay dadkani aqliga dabadu ka gala sida daanyeerka kale u fikiraan Soomaaliyan sida daanyeerka kale u fikiraan ma maanta that is a problem ka jira marka ma maanta Oromada ku soo hadhay marka Oromadu daris baan nahay waxaan wadaagnaa geography baan wadaagnaa dhul baan naga dhaxeeya deegaan baan naga dhaxeeya waan wada tashanaynaa dhulkana waan wada maamulaynaa dhulkaas naga dhaxeeya Oromadu ma inta garta iyo ixtiraam way garteen Soomaaliya
mise haddii ay rabaan oromadu waa inay ku tusaale qaadato oo caqligeeda ku tusaale qaadato warniyahu Mengisti Xayla Maryam iyo Xayla Salaase iyo Malla Zanaawi yaa waddankan xukumi waayey marka waa inaad cashir ay idiin noqoto midaas ay idiin noqoto waa inaad midda ay oromadu ay ku tusaale qaadato oo ay saas u fahanto ma fahanti marka waa inay sida oromadu ay u fahanto siyaasiyiintooda iyo caqligooda u fahmaan annagana idin nimid anigu waxaan aaminsanahay oromada cadaawad waxba la yiraahdo hawl muujinina ma garateen oromada waxa weeyaan waanu soo dhaweynaynaa waanu la shaqaynaynaa waanu fahmaynaa laakiin constitutionka dastuurka dalka u yaala iyo caqdiga waddanka u yaala iyo systemka waddanka u yaala iyo xuquuqda aadamaha kama dul mari karaan oromadu ma dul dhaafi karto history cusubna ma rabto inay annaga nagu qasabto ma rabto macnaha kama yeelayno Soomaali baan nahay Soomaalina way taqaanaa sida loo dagaalamo Ingiriis baa la dagaalameen Talyaani bay la dagaalameen Mareykan bay la dagaalameen waxay la dagaalameen qolo walba la dagaalameen ma garatay the reality waa nooca marka oromo they have to realize waa inay xaqiiqsadaan cadowga faraha badan ay leeyihiin ee kale Ethiopia xaqiiqsadaan no Tigray ma rabaan oromo waddanka inay xukunto Axmaaran ma rabaan waddanka inay xukunto oromadu waa inay taa fahanto haddii ay rabto Soomaalidan inay cadaawad ay ka samaysato war Soomaalidu waxa weeyaan Soomaalidu xaqiiqatan waxa weeyaan dad sida loo dagaalamanayo yaqaan sida loo dhintana garanayo way ma fahanti the reality waa nooca marka waxa weeyaan oromada waan sugeynaa maamulkeedana waan sugeynaa xisbiga EPRDF waxa uu la yimaadana waan sugeynaa laakiin we will not accept it annagu kama aqbalayno dulmi iyo operation iyo undemocratic iyo in lagu tunto dastuurka dalka lagu tunto midaas waxaan ka yeelina ma aha laakiin wixii ummadda danteeda iyo dalkeeda waan kala hadlaynaa waana kala tashanaynaa annaga inoo soo hadhay marka Soomaalida ah ee ku nool meeshan ku nool gobolka ku nool dadka Soomaalida gobolkan ma rabaan inay wax ka qabtaan hal reer baa loo aanaya reerka Soomaaliyeed ee loo aaneynaya ee gobolka ugu badanna isaga laga rabaa taladiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa inuu la yimaado sidii ummadiisa uu ku maamulan lahaa oo ku waxayn lahaa Soomaaligan waxaan u baahanahay marka eenagu inaynu siyaasadeennii iyo fikirkeennii iyo caqligeennii aynu dib u habayno Ethiopia dagaal kale ma u baahannahay inaan dagaal kale ku qaadno waa maya anu ma aaminsani dagaal dambe iyo qori dambe inaan u qaadno unless ay arintu ay xumaato mooyaane marka doodayda dhowr qof baan soo gelinayaa haddii alla idmo bal waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan soo geliyo ninkan la yiraahdo saaxiibkay ah Cadnaan iyo waxaan soo gelinayaa dhowrka nin laakiin Maxamed Beyri baan rabaa inaan soo geliyo Maxamed Beyri ku aaway Cadnaan adaa ku xiga okay Maxamed Beyri baa isbaranaysaan bal ninkan waa nin aqoon-yahan oo dhalinyar oo caqli badan iyo fikir badan laga faa'iidayo marka bal isbarta haddii alla idmo isagana khadka soo gelinayaa السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ سولو ساتا. أيوة صاحب. وحاول برنامج بدن بكال ساعة وحاول سفي عم وركع وانا دعاي ما فهمت. قضية بدن بتعبطي وحاول آد وحاول فكر كأسود ويننا أقويان كده اللي يرد صوك عاية وحجرتك كالنت مهم كالي بعد المستقبل كصوص علا. مركع حاول فكر كأسود بوسود ويننا استبدل كنا وحاول إثيوبيا كدعاي. annagu waxa weeye waa soo dhaweynaa oromada waxba naga dhaxeeya sida sheegtay cadow kale leeyeen cadowgooda kale oromadu waxa weeye awoodda ha saareen ma garat sax marka waxa weeye cabdi ilay iyo waxa uu wato oo Tigreega raacsanaa maanta in meesha laga saaro waa wax loo baahan yahay in Ethiopia qayb siyaasadeeda laga noqdona waxa weeye waa wax aad u muhiim ah midda kale oo aan rabay waxa weeye arrinta berberaniyo oo aad ka hadlaysay oo dhahaysay berbera iyo waxa weeye ra'iisul wasaaraha cusub Ethiopia wuxuu dhahay waxa la meeshan waxaan rabaa in Soomaali ogaadeen lagu go'doomis lagu galiyo ma garat saxiix marka arintaas waxa weeye ra'iisul wasaaraha hadalkaas waxa weeye anagu ma taageersani Abi Ahmed waxa weeye hadalka waa ku qaldanaa way la tahay Soomaalidana waxa la rabaa in meel isku raacdo qoliyihiinan waxa weeye kililkana waxa la rabaa in la mideeyo oo isbedelka ka dhacaya waa ognahay Oromo inta uu soo dagaalamayay in kursiga tagto waqti iyo maskax bay gelisay dagaalkii waa bedeshay
waxa weeye dagaal siyaasad iyo waxa weeye qaab kale adeegsatay qorigii waxa waaye awood badan ma saarin marka aad iyo aad baa saaxiib gacli waa waxa weeye usoo dhaweynaya isbeddelka dhacay raggaa fikirka cusub wato adigu ka mid tahayna waxa weeye inay kaalin qaataan waa wax muhiima ma garatay waa gartay dad adduunkana de waxa weeye waxa maalinba markay meeshay marayso ba waxa weeye lagala jaan qaadaa maanta waxaa aaminsanahay waxay maraysaa in dee etoobiya waa aragteen tigree waxa ku dhacay oo intaas dalkan soo maamulayay iyo amxaara ka horreysay maanta oromo dalkii waa qabsatay innagu soomaali haddaan nahay oo dhulka la degnana anigu middaan qabo waxa weeye in dadkaas waxa weye lala dhiilgareeyo la fahmo cabdi ilay iyo wuxuu ka geystay oromo gobolladeeda iyo soomaali iyo oromo wuxuu kala dhex dhigay ilaan waxa weeye meel looga soo wada jeesto oo waxa weeye ninkaa keligiis talimada tooshka lagu shido bulshooyinka dariska nala cadaawad naga dhexaysa oo hadda maanta jirta ma jirto wixii maamulkiisa sameeyeyna waxa weeye isagaa lagula xisaabtamaya soomaalina wuxuu ku sameeyey isagaa lagala xisaabtamaya innagu waxaa maanta isbeddelkaas etoobiya ka dhacay maanta inaan waxa weye qaybteena ka qaadano waxa weeye garab noqono caddayno waxa weeye dadka bulshada caadiga ah inaysan waxa weye waxaas cabdi ilay wuxuu sameeyeysan shuqul iyo shaqatoona ku lahay in la caddeeyo waa arrin muhiima ma garatay maxaad ka wadaa macnaha in la caddeeyo yaa loo caddaynayaa maya innagu bulshada aan la degannahay oo reer etoobiya in loo caddeeyo macnaa arrinta ah inaysan bulshada soomaaliyeed ee etoobiya degani inaysan ku lahayn yacni wax eeda ama wax dembi inaysan ku lahayn cabdi ilay gobol fadooda ka geystay gobollada oromada niyow ninka la yidhaahdo maxamed beeri hal arrin baan rabaa inaan kuu sheego haye dadka gobolkan ku nool waxa weeyaan muddo 40 sano 30 sano ayaa la leynayay waa gart waxaa leynayayna ciidamada etoobiya ay ahaayeen waa gart ciidamada etoobiya 90% waxa ugu badan waa oromo waa gart korneeladii oromada ee dadka leyn jiray ee dadka xasuuqi jiray baa la yaqaanaa haye waa gart korneeladii oromada ahaa cadaaladda ma la keenayaa mase waxaa la rabaa oo keliya in la keeno cadaaladda laba wiil oo liyu booliis ahaa oo mataqaanaaye yaa la rabaa in la keeno cadaaladda noocaas ahase etoobiya ma u keenaysaa dimuqraadiyad iyo isu soo dhowaansho ma u keenaysaa niyahow midda loo baahan waxa weeye sidaanu ogsoonnahay waxaa la rabaa marka annagu aan ka hadlayno si cadaalad aan nooga hadlayno ninka liyu booliiska ah ee dadka laayay ee annagana laayay annagay noo taalla annagaa kala xisaabtamayna niyow midda maxamedow kala socoto aan kuu dhameeyo wax yar ninka liyu booliiska ah ee qabridaare dhagax buur jigjiga dadka ka laayay annagaa la xisaabtamayna yaa la xisaabtamay kii oromada ahaa ee etoobiya ee dadka isaguna qabridaare iyo dhagax buur ku dilay yaa la xisaabtamaya okay haddaba aan kaaga jawaabo mid baa jirta niyow etoobiya maanta oromo iyadoo ra-iisul wasaare ah maanta oromo iyadoo aan ku sheegaa de oromo iyadoo maanta ra-iisul wasaare dalka ka ah ba waxa weeye haddana waxay samaynaysaa ba haddana la leynaayo la soco iyadoo maanta ra-iisul wasaare dalka ka ah ba waxay shalay la leynayay hadda oo waxa ninka ra-iisul wasaare yahay gobollada waxa weye inta maalmihii hadda inta la magacaabay xataa waxa weeye oo layn badan gobollada qaybtooda iyo magaalooyinka qaybtooda loogu geystay marka waxa weeye xukunka inaad tagto ama waxa weeye isbeddelka etoobiya maanta ka dhacaya soomaalidu inaysan ka maqnaan oo qayb ku lahaato waa arrin lagama maarmaana sidaa ogsoonnahay waxa weeye tigree oo cabdi ilay uu kula jiray xulufo waa lagaga adkaaday etoobiya haddaad la socoto waxa weeye 46 nin oo xildhibaan etoobiyaan ah oo tigreeya baa ka codaysay ninkan ma fahantay marka waxa weeye soomaalidu inay warkeeda caddayso oo isbeddelka ka qayb qaadato waa wax lagama maarmaana ustaad maxamed beyri tigreega in cod dimuqraadiyad ah etoobiya cod dimuqraadi waa la qaadi karaa laakiin etoobiya systemka ka jira waxa weeyaan dimuqraadi horta la iskuma xukumo laakiin cod u eg dimuqraadiga waa la qaadi karaa tigreeg waa runta tigreega waa laga guulaystay fiiri tigreega waa laga guulaystay laba cod bay heleen laakiin su-aasha anoo aan raba inaan isweydiiyo waxa weeyaan meeshan xuquuq waxaa ka dhacday dembiyo dhibaato badan baa ka dhacday oromada waa run waa la laayay dhibaato badan waa loo geystay oromada maamulkan meesha ka jiray ee tigreega dhibaato badan ayuu geystay oromada wuu geystay soomaalida wuu geystay soomaalida waa la laayay sida oromada loo laayay baa soomaalidana loo laayay ma garatay waa gartay laakiin waxa weeyaan arrin baa jirta cidda laynaysa fiiri oromada waxaa laynayay dowladda etoobiya wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda etoobiya laynaysa jararadii iyo wixii baa laynaya ma garatay waa gartay
sheekadu maya hadday tahay firi aabow aan ku dhameeyo sheekadu hadday tahay aabow ka weyn iga celi oo ka yar igu sii daa waa meesheeda waa gar hadday tahay ninka tigreega aanu maxkamad ma keeni karo laakiin ninka soomaaliga ee liyo booliska maxkamad waan keeni karaa taas macnaheeda dee waan iska fahmaynaa ma garat maya firi in cadaalad bulshadeed la helo waxa ka horeysa horta in waxa way systemkii la sameeyo soo ma sax marka in systemka la sameeyo oo isbedelka hadda dhacaya iyo waxa way Ethiopia waxaan taariikhda cusub aan ka dhicin baa ka dhacaya maanta reerkaas waxa way muddo ay u soo dagaalameen qarniyo u soo dagaalamayeen akhiran ma garatay marka waxa la rabaa in isbedelkaas yani dadka cusub oo dadka cusub ee meesha qabsaday in yani laga qayb qaato oo waxa way siyaasadda cusub laga noqdo yani qayb laga noqdo baa muhiima ma garatay marka arinta jirta way Soomaalidu inay hadal arinta aan ku dhameeyo arinta la rabo waxa way mataqaanaa inaad waxa way arinta loo baahan yahay in aysan noqon sheekadu hadal kaliya oo aysan noqon yani meelahaas laga soo qeylinaya waxa ognahay hadda jamhadda onelef waxa way taariikhda waxay ka gashay yani aniga sida aaminsanahay maalintii hadda lasoo dhaafay shirkay la gashay Tigray oo ay Nairobi kula gashay qalad weyn buu ahaa Tigray oo sii dhacaya oo qoraxdoodu waxa maqrib joogto inay la fariistaan oo waxa way ogolaansho badan siiyaan oo sharciyad u raadiyaan oo waxa way la yiraahdo Tigray iyagoo gudihii laga kacsan yahay banaanka la yiraahdo waxa way jabhado mucaarad intaas soo ahaabay soo xareeraysaa aad marka in siyaasadaha wax laga bedelo ma aha in mataqaanaa hadalka aniga ku dhameeyo hadal iyo fal ku dirir kaliya baasha lama rabo inay ahaato maxamed waxa la rabaa baasha in waaqac loo soo dego waaqac sidee loogu soo degayaa way waaqac waxa way isbedel baa ka dhacay dad yani dalkaasna waxa way si kasta oo ay ahaato waa in yani saameyn lagu yeesho waa in qayb laga noqdo sida ognahay waxa way Soomaalidu waxa way waqtiga hore dagaal bay ku lumisay qayb kama ahayn waxa dalka ka dhacaya afarta jabhadooda ku jiro jabhadaha ku midoobay Ethiopia oo haysta iyadoo qayb kama ahayn marka waxa way hadeer tortadan iyo keekan la kala goosanayo Ethiopia isbedelka ka dhacay mar labaad in Soomaalidu ka maqnaato ana waxaan u arkaa waxaan loo baahnaa inay tahay marka ani waxaan qabaa midaan qabo waxa way yeesana dhaafin arintaasu qayb saamigeed hal la qaato dadku kaalintooda ha ciyaareen gudaha hal la kiciyo ha lagu baraarujiyo dadka waxa way waa arin yani aad u muhiim ah arintaas inaan dalka laga maqnaan waxa way qaybteeda lagu yeesho anigu waxa aaminsanahay Oromo waxay noo diidan tahay male ma fahanteen ciday maanta garab ka dhigato oo waxa way Tigray iyo nimankii dalkan ka soo talin jiray dalka taariikhiyan ka soo talin jirayna cid garab uga noqoto oo ku celisa waa yani iyaga u baahan ma garatay waxa way sheekada ninkan ra'iisul wasaaraha kali hadda laga dhigayna waan qaybsanaynaa waxaan siinayaa khiyaarta kale aan siinayaa waa ka baxaya hal mid baa dhahaya midda waxa way arinta ra'iisul wasaaraha Ethiopia hadda loo dhiibay waxa ognahay gacantiisa awoodo badan inay isku jirin dalka wali waxa weeye meelihiisa muhiimka waxa haya Tigray baa haya marka Tigraygaasi yani dalka yani looga badbaado arinta waxa muhiim ah in la helo ninkan inuu helo qowmiyadaha kale inuu ka helo taageero iyo garab marka taasna waxa way Soomaalidu haday ka maqnaato midaas anu ma dhahayo taageero bilaash ah la siiyo ra'iisul wasaaraha cusub laakiin waxa loo muhiim ah in shuruud lala dhigto la waa ku garab taaganahay Tigray waa ka furfuraynaa laakiin maxaa Soomaali oo ogoshahay gruubyadan waxa way kaligistayaasha oo meesha haystana ka leexi waxa way ummadana dalkaana maanta Soomaali iyo Soomaalidu waa dadka saddexaad ugu tiro qowmiyadda saddexaad ugu tiro badan dalka Ethiopia Oromo iyo Ethiopia haday midoobaan waa dad islaam ah waa dad waxa way wax badan wadaagno oo dhaqanadooda isku soo dhownahay hadii marka midaan la helo in Ethiopia yani Soomaali iyo ay midowdo Oromo ana waxa aaminsanahay wax badan bay qaban karaan wax badan baan la qaban karaa wana mahadsantii saaxiib fikradaada aad buu taageersanaa aad baad u mahadsantahay maxamed insha Allah taala waa salaamaya guulada Cadnaan su'aal yar baan rabaa inaan ku weydiiyo arrinta ka duwan su'aashaydana waad sii maqashaa waan ku sii siinayaa su'aashaydu waxa way guuladu Mareykanka ku nooshahay annaguna qurbahan ku noolahay waxa weeyaan dhalinyaradii wadanka joogtay maxaad u soo jeedinaysaa wadanka gudihiisa joogtay ee kilalka wax ku baratay ee jaamacadaha wadanka ka qalan jabisay wiilkan yarka ah 40 sano jira ra'iisul wasaaraha noqday
guuleed ma maqlaysaa waan idin soo qabanayaa khiyaarta mid baan idin soo qabanayaa raali noqdaya dhammaanna sheergareeya dadkana soo jiida alo guuleedkana waxaan ku nacay meel internet xun buu joogaa mar walba moogta ma fahanta waraa guuleed hadduu doono meel kaluu ku qaylinayaa ninkaas aan soo qabtay somadan kan wallaahi billaah ninka aan soo qabtay hadduu doono meel kaluu ku qaylinayaa eeg ma fahanta okay guuladow ma joogtid haddaba ha dhowto isoo qaba hay odhanin ugaas ma garat ay okay guuladow nabaday marka aadan baasay baan soo qabanayaa marka aadan baasay baa nin culuse war guuleeda 3 mar baan kuu soo diray 3 times baan kuu soo diray waxaa la leeyahay video not answering ma garat video not answering baa la leeyahay 3 times baan kuu soo diray wallah ma anta ma qabanaysid war aadan ma maqlaysaa aduguna aadan ma maqlaysaa maanay wax iga yihiin marka dadkii oo dhan noo soo qaban kareen laakiin soo kan ninkan soo qabtay hadda ma ahayn waxba si igama ahane niyo idinkii wax si idinka yihiin niyo ay waalina nimayo ninkan soo kan soo qabtay maaha aadan baasay idinkii wax si idinka yihiin ma fahanti jar oo igu soo celi markaas intaad jarto igu soo celi idinkii wax si idinka yihiin anigu wax si igaga ma jirto weedinku xataa sida internetka loo isticmaalo ma yaqaanaan weli joole hadda ninkii hadda idinka horreeyey boosaaso salkeeduu joogaa kalluunku dabtaa internetkana waa yaqaanaa ma garatay idinku xataa maraykanka iyo ingiriiska jooga internetka sidaa u isticmaashaan xataa ma garanaysaan koorsooyin badaan baad u baahantiin koorsooyin badaan baad u baahantihiin dadkaasaan rabnaa siyaasadda geeska afrika inay wax ka qaybtaan qaybtoodii wallaahi bilaahi dhib baan nahaysa wallaahi bilaahi warniba aadan baasay ina hore waad idin soo qabtay oo wallaahi oo bilaahi 10 mar baan idin soo qabtay ma garatay 10 mar yaan idin soo qabtay ma fahantay I don't know what's wrong with waxa idinka khaldan ma garanayo ma garatay waxa idinka khaldan wallahi ma garanayo waan idin soo qabanayaa bahalkii ma qabanaysaan aaway kii ahaa cannaankii aaway tolow cannaankii baan haddana ku fiirinay anaa baa aqaanaba hadda kadib systemkan 3 geesoodka inaan samaysto weeye ma garatay aaway cannaankii bal isu hadda cannaankii waan soo qabanayaa haddana fiiri no answer from life aadan baasay wuxuu leeyahay maba jirto buu leeyahay answer ma garatay markaan ku soo qabto cannaankiina aaway markaasoo kala nacaan moogta markaasoo kaleeto meeshaad iga qastaan systemkoo dhan baad iga qastaan moogtiid maanta soo qabanin soo idinku ma aha marka aadan baasay soo idinka khalad ma waan ku salaamay mudane waan ku salaamay aad baan u qoslaayay waan qoslay caawo dhan haddii aan ku rooyaa waan ku qoslaayay dacayada dabada noo qabatay meesha dacayada soo gashay inaad heerka jaayfayso waxa weeye heerku awal hore aday weli ay sonkoray jireen way rogatay oo adigu leebka soo galay reerka shalay toole aan ka qosliyo shalay toole waraad xad qorxayo xogaa yar siyaasadda iyo qosolka waan isku wadaynaa shalay baan nin la sheekaysanaya moogtahay saaxiibkaya haye markaas waxaan ku warniyo reerihiina laandheeraha iyo reerihiina yar yar maxaad of kala taqaanaa baan ku yiri moogta hay markaasuu yiri waxaan u bixinay maad maqashay buu yiri maya wuxuu yiri waxaan u bixinay ingiriiska waaweyn iyo ingiriiska yar yar waa gartay markaasaan niyadda waxaan qeeray warniyo qolyihii cadile yararka ingiriiska yarar ha loo bixiyo baan oo bahasha hala system fiican ha loo sameeyo ma garat hala kala duwo macnaha system dadku macnaha dila korayeen isku dhaxdaadan ها يسكون حدا إنجليز كيرر يا إنجليز كيرر
waa arrin fiican ba moogta waa gartay marka niyow waxaa weeye ii sheegay laga baray bay laga badi waxaa weeye baasha niyow waxaa weeye reerka anugu jaahilnima horta reerkan waa jaahilnimadka waan awal hore waan macnaha qaatay waan dhegeysan jiray kaftaka halkaas aan ku joojinaynaa su'aal baan rabaa laakiin hal qodob baan ku darsanaya reerku jaahilnimo ma hayaane waa ilbax Soomaali markii la yiri ilbaxa koobaad bay noqdeen Sawaayo 3 dawladood oo Afrika ku yaalay ku kala darmadeen waa gartay raas 3 dawladood mid walba wax ka okay aan u soo laabano doonteen baan u soo laabanaynaa maxamed qorraxay dad badan baa khadka ku jira ku dhageysanaya adduunka daafihiisa kala jooga waxa laga hadlayana wuxuu ahaa masiirka ummadda deegaankan degan ayuu ahaa dhalinyarada wax fahansan ee aqoonta leh ayaad ka mid tahay ee qurbaha ku nool waa gartay adoo hal jimlad ku soo koobaya dadka maxaad ugu baaqi lahayd niyow maxamed khadarow aad baad mahadsantahay barnaamijkaagana aad baan u xiiseeyaa nin aqoon leh oo haddii la ku roon yahay ii sheegay aqoontiisu laakiinse ayaan darra haysataa tahay ayaan darra ku haysataa aqoontaada ayaan darra haysataa waxaa weeye ii sheegay dalkan la yidhaahdo Ogaadeniya ama Soomaali galbeed anigu ma kala jecli inuu dalku xorobaan anigu doonaya dalku xorriyadiisaan doonaya anigu mar kastaba wixii loo bixiyo ma qurux loo bixiyo anigu xorriyadiisaan jeclahay dadka qaar baa phobia ka qaba haddaan Ogaadeniya dhaho qayb baa dhiikar ku dhici caawa sixarayn dadkan niyahow isticmaar baa haystay qoomiyadda Soomaaliyeed waa 14 milyan 14 milyan 8 milyan waxay ku nooshahay dalka la yiraahdo Ogaadeniya ku nooshahay dadka inta tiradooda la eg ee $2 ay Ethiopia haysato 100,000 oo sano halgamahayeen halgankii ilaa waqtiga maanta wuu socdaa waxaynu ognahay halganka ilaa oo laga midho dhaliyana inuusan nabad ku soo dabaalmaynin dalkan waynu ognahay sida wadkayga aan u hubaa inaan gaari iyo inaad adigu gaari Allahu yaclam inuu ka aan dhali doono ka si dhali doono inuu gaari Allahu yaclam halgankan uu soo waa sudhiib waa qori sudhiib marka maanta Ethiopia way burburtay waan soo koobaya Ethiopia maanta way burburtay maanta yaa maari jiray bay lahayd maanta yaa maari jiray mucaarad iyo maxaafad gabdhaha inta isqabsadaan inay ka faa'iidays hay maxamed qorraxay صح Ethiopia way burburtay marka aad leedahay wax horta realistic ma wax waaqic ah ma dadku horta waa inuu u fikiro si waaqic ah u fikiro ma garat صح Ethiopia anu waxaan aaminsanahay way daciifi kartaa Ethiopia systemkeedu wuu isbedeli karaa horta Ethiopia meel burburaysa ma aha waana meel la ilaashanayo ma garat صح qoomiyad yar oo masiixi ah oo meeshan degan ayaana lagu ilaashanayaa meeshan ma garat waa gartay dhulka Soomaaliyeed baana la rabaa Ethiopia in lagu qabsado si ay ma burburayaan marka ma garat صح adoo burbur baad ka hadlaysaa waxa la rabaa Ethiopiaanka intii la safriyo ayaa la rabaa Soomaaliya inay qabsadaan baa la rabaa ma garat صح meeshan waxa weeyaan walaalow Ethiopia way burburaysaa waa waxa dadka horta lu gooyay ma garat waan gartay Ethiopiadan way burburaysaa waa inaan ku bedelo Ethiopia seen wax ooga noqonaa ma garat waan gartay Ethiopia sideen wax ooga noqonaa waa inaan ku bedelo Ethiopia way burburaysaa okay aan ku dhameeyo Cabdi Khadar aan ku dhameeyo hay Ethiopia way burburaysaa ayeeyday baa lahayd awowgay baa lahaa waan gartay awowgay ayeeydii ka horeysay sidaas oo kale lahaayeen waan gartay Ethiopia intii ay taagnayd ee la lahaa way burburaysaa 50 dawladood oo islaama burburay صح islaamka la burburiyaa wadan gaala lama burburiyo midda kale ninka fiiri ninka masiixiga ah ee ku xigay ee prime minister ku xigeenka ahaa ma la socotaa صح axmaarada ahaa ee muslimka ahaa looma dhiibin nin gaal ah oo protestant ah loo dhiibay waan gartay lama aaminayo nin muslima inuu meeshan qabto waan gartay walaalow meeshan waa meel la ilaashanayo dawlad iyo dad baana lagu ilaashanayaa meeshana bariga dhexe gate of access of Red Sea badda cas baa la rabaa meeshan in laga maamulo ma garat صح carabtaas la rabaa meeshan in laga xukumo waa aragtay carabtii oo dhan baa la Ethiopia waa in loo dhiibo Soomaaliya leh okay waa ka qaatay marka walaalow arrintan Ethiopia way burburaysaa walaalow
أنو إن إثيوبيا إني بربرته واتشعلها لكن صح نفط إنا بينو شيء أو خيام معه صح ورأرم على إثيوبيا بربريسا سيقول هاي أنا أرم إثيوبيا بربريسا مركي ورهرين بي في زرداري إثيوبيا نقدين waan gartay سياسة دي بوحكي بدلين صح Soomaalida baa waxayna dhahdaa Ethiopia warburaysa dibkana anaga nageliyan hadhowna anaga na soo qabtaan ma garat صح waa arkaysay madaxda Soomaalida ya BBC-da lahayd Ethiopia waa dal wanaagsan waa dal way u ducaynayeen waan gartay kuwaas iga shaqada waxa soo qaadanay lacag ku shaqeeyaan kuwaas ayaga anigu soo dirin qaabka aan ku soo dirin fiiri waana xaqiiqa Ethiopia xaqiiqa way tageen oo mataqaanaa isha ما قرأت أي إثيوبيا تجين ما لا مغلا صح واكو مغلا قطك صغير قرعد مده صح ما لا مغلا يا خيرت واكو مغلا أنا واكو مغلا ما لا مغلا يا خضر واكو مغلا والله يقع أوكي صح ولا لو مركب وحوي يعني إثيوبيا حل يحل كله من ما بربريس ما قرأت لكن إن بربرت والله جاي هذا ما قرأت صح marka dadkeena waxba yeelan sirina Ethiopia wax meel ay hadda u socoto iyo meel ay ka burburaysaa midna ma jirto wadankan waad aragtay intii yareeyay hadda qalalaasadu socotay aynu runtu soo sheegno riyaalka soo dhacna leedahay cad khadar riyaalka soo dhacna aan ku dhameeyo intii yareeyay ee hadda qalalaasadu Ethiopia ka socotay hal maalin baa waxaa tagay 3 wasiir oo arrimo dibadeed iyo madaxda reer galbeedka oo dhan baa tagtay كي أركوش كاتجي كي أمريكا كاتجي كي إنجليز كاتجي كي فرنسيس كاتجي ما قرأت صح ماشي والله إلى الشدة مركز ريالتي أنك هذا ما قرأت صح مركز دتك يناصرين لكن ماشي الله إلى الشدة سيدنا قيب أغنى قلنا قيب سين أغنى قلنا فيري واحد أربع ربعان تاريخ وحرب تاريخ دتك إنه صفي عن أفهمين واحد هذه أنا يجرى لنا وقصينا يا وقت يا وقصينا يا هاي وحان سبب ردقة يا قبل كأنه iyo waxaan isbarbar dhigayaa Ingiriiska nimankan la yiraahdo waan gartay Scottish ma garat صح Scottishka waa aragtay Irishka waa aragtay صح Ingiriiska inay ka go'aan bay rabeen waan gartay dagaal adag bay la galeen Ingiriiska intiisii kale waan gartay markii dambe ninkii Irishka jabhadda Irishka ugu weyneed baa ay soo qabteen jeelka dhigaan صح sida madaxda Olaf Ethiopia jeelka u dhigayso waa gartay ninkii bay waraaq u dhiibeen Irishka ahaa waxay dhaheen niyo jabhadaadii la soo hadal oo wada hadal ka keen waa sidan hadda Ethiopia ay sulub kolba u direysay iyo qolo u direysay ay lahayd jabhada la soo hadal oo war noo keen ay lahaayeen ma garatay صح nin baa marka loo dhiibay oo ninkii jabhada xukumay Irishka ahaa yaa waraaq loo dhiibay oo Ingiriiska u dhiibay wuxuu yiri waxaad ku dhahdaa buu yiri Irishka صح afartan gobol ee u dagaalamaysaan laba ka mid aan idin siinayna labada kalena iska daayo faraha ka qaada waan gartay Irishkii laba u kala baxeen oo isku laayeen waan gartay ninkii gudoomiyaha u ahaada markii wuxuu yiri warheedaha maxaynu isku layn buu yiri cadawgii aynu la dagaalamayna hadduu laba gobol noo ogolaaday buu yiri de labadeena gobol dawlad aynu ku noqono buu labada kalena aynu raadsano inagoo dawladda ma garat haye Ethiopia sababta waxa uu ka soo garo waan isku daynaa inagu horta hadalka nuxurkiisa halkaas u socdaa ma garat aynu istabcina leedahay waan ku cad ma qadar aynu istabcina leedahay qabri daare iyo goday baan idin ogolahay xataa waan ogolaanaynaa anu taasan qabaa ma garat soo tay qabri daare iyo goday oo dawladda inta kale halkaas barnaamijka maxamed khadar barnaamijka adaa iskale martibaan anu kugu ahay waxaa loo baahan yahay adiga mowqifka aad wadatid dib baad ka sheegi doontaa anigu mowqifka aan aaminsanahay waxaad adigu aaminsan tahay igu shubi kari maysid macnaha waan ku ogahay waxaan oo dhan in yar haddaba iga dhegaysa aniga walaalkay laba nin oo reer qurxay aan isla nahay labadeena bal xaqiiqata riyaalta markii inaan dhaan dabangaallo iyo wax yar oo haddii la kuuro socdana aan dhowrano waa habeen xalay tegay maxamed khadar walaalkay horta dalkan wuxuu soo maray taariikh dheer ilaa Axmed Gurey ku gali mayno waad ogtahay waa la socotaa markaad gadaal aad u dheehato gadaal aad u raacdo maalinta ka dambaysay ka sii dareysay
etoobiyana waa la ilaashanhayaa baad tiri oo midda waxaa weeye aad dadka aad lagu qabjabiyo weeyaan ee moraalkooda adduunka waxa ugu xun haddii qofku uu yidhahdo qori baa kugu dili iyo hadduu ku yidhahdo maskaxdan kaa gumaysan maskaxdan hadda ereygaad meesha ka sheegaysid baa ugu daran waa maskaxda haddii lagu furo tashuush oo lagu yidhahdo dalkan caalamka oo idil baa ilaashanaya war etoobiya aniga oo jooga yaa mingista xayle maryan yuu ka tegay subax yuu kabaha ka xidhay labada kabood intuu gacanta ku qaatay cararay ma garatay ii sheegay haddii la kuri dhargii baad joogtay haddii la kuri oo shalay ahayd oo dowladda soomaaliya ka dambeysay etoobiya waa la ilaashanaya marka aad leedahay waxa qabsaday ee gacanta etoobiya ku dhigay waa TPLF 5 wiil oo Tigray ah bal dhageyso 5 wiil oo Tigray ah iyo gabar Tigray ah oo gaaban oo haddii la kuri halka kaliya inoogu dhacaysa lixdaas qabsaday horta etoobiyana aad leedahay waa la ilaashanaya bal horta niyadaada u sheeg maxamed khadarow waxaa qabsaday oo gacanta ku dhigay 5 wiil oo Tigray ah oo qandhaciil leh iyo gabadh Tigray ah baa qabsaday ee horta niyadaada u sheeg hadduu caalam ilaalin hayo iyo hadduu khamar samaa ilaalin hayo taa horta niyada sheeg iikaad walaalka iikaad maxay qoraxay dooda fiiri ma raba inaan isfahmi weyno waxaan rabaa hal meel inaan u soconno fiiri walaal waan ku fahansanahay صح waan ku fahansanahay waxaad leedahay wallahi waan ku fahmay aynu Ethiopia dhex qaadno oo aynu Ethiopia dhexdeeda ka soo saarno siyaasad ahad wada macnaha ayaan u fahmay anigu kulay shakhsi ahaan aynu Ethiopia isku darro oo systemka la qaybsano oo aynu sida oromada aynu wax ku yeelano madax sare ilaa minjo aynu wax ku yeelano saasaynu wax ku yeelina dalkeenana ku goosan karnaa nin go'itaan doonayana waa tahay nin raba inuu istabciyo oo isu dhiba ninkiina waa tahay halla waa ku sheegi on elef ma aynan ku bixin kuma aynan bixin haddii ay ku roon yahay sandulan xabada waa ka adkaa kuma aynan bixin baryoota wala intay aqlabiyad doorasho sidan u gashay baa lagaga shubtay 150 jeer haddii la ku wada fadhi bay yeesheen waxa weeye on elef maslaxada mar kastaba way ugu horeysaa waxay leedahay doorashadii haddaanu Ethiopia nahay doorashadii aanu ku guulaysanay see loo qaatay seedii dimaaciday wixii aynu ku ridaynay baqtiya nasiibka ah see lay dimaaciyay haddaan Ethiopia anigu ahay waaba Ethiopia baan nahay on elef mayna diidin Ethiopia horta masaaniyada u sheeg Ethiopia mayna diidin on elef Ethiopia oo ah wixii on elef Ethiopia ayuu ku haysa baa lagaga shubtay oo la yiri matid lagu yiri ee naga baxa la yiri maalin cad naga baxa la yiri waxaad moodaa dadku inuu si fiican isku fahmaa fiican ma garat sax anigu waxa aan ka hadlayo waa very clear way caddahay ma garat sax adigu waxaad ii sheegaysaa hadda nin Tigray ah qori qaatay mangisti baa ka tagay taas burbur ma ahane nimankan way dagaalameen Ethiopia ay qabsadeen ma garat iyo Ethiopia way burburaysaa iyo nin baa qabsaday waa laba kala oo adigu maxaad la qabsan laadahay adigu maxaad la qabsan laadahay maxaad fiiri ninka la yiraahdo maxaad qoraxay sax waxaad moodaa xoogaa emotional intelligence badan inuu kugu jiro ma garatay isdeji si aan isu fahanno aad adu waxaad wax la qabsan laadahay bal adu isweydii yaa kula dagaalamay adiga waxay la dagaalamay qoomiyadda Ethiopia oo dhan oromada waxay la dagaalamay fiiri orniyo dhigayso waa inaan realistic noqono waa inaan waaqici noqono ma garatay sax waxa weeyaan wiilashii oo nalaf ah yaa baabiyay yaa la dagaalamay geeska Afrika oo dhan baa la dagaalamay geeska Afrika oo dhan geeska Afrika oo dhan baa la dagaalamay okay so geeska Afrika oo dhan oo kula dagaalamay sideed ku qabsan kartaa Ethiopia walaalka oo Ethiopian ah oo Soomaali ah oo nin ogaadeena yaaba kula dagaalamaya cid kale iska daa ma fahanti fiir walaal wiilka Tigray ah markuu Ethiopia qabsanay lama uusan dagaalamaynin walaalkii oo Tigray lama dagaalamaynin ma garatay waan gartay aan kala saaro baasha inaan isku qasno ma aha ma garatay صح waxaa fiican inaynu si caqliyeysan u doodno oo u fikirno ma garatay aad iyo aad Ethiopia way burburaysaa iyo Ethiopia aan qabsano waa laba kala arrin صح Ethiopia way burburaysaa anuu wax cad baan kuu sheegay waxaan ku iri Ethiopia kontonkii sano ugu dambeysay waa burburaysaa wallahi wax burburana ma aragno wax si xoogaysta mooyaane waa gartay konton dawladeed baa iyada gadaasheed burburtay waa gartay hadday beenta oo ilaahay beenaala tahay ma garatay
kuma dhahayo beenadaa tahay ma kuma garatay dhahayo walaal laakiin hal meel ka tusay wax inaynu isfahnaa fiican ma garatay صح Eritrean Ethiopia intay qabsadeen bay goosteen intoodii adigu intaad Ethiopia oo dhan aad qabsato ma goosatid dhulkaaga oo Ethiopia aad dhex gashid wiilkana Oromada yahay ee maanta xukunka talada dalka Ethiopia haysta kuma uusan qabsanin qori kuma uusan qabsanin ma garatay صح qorigii waxa uu dhalay waynu aragnaa waan gartay dalka ugu kheyraad badan gobolka ugu kheyraad badan baa tahay waan gartay shidaalka ugu badan baad haysataa صح dadkaagu wuu u dagaalamaa dagaal baa lagu yaqaanaa waan gartay 10,000 oo wiil oo Soomaali ah meesha ay ka soo jeedsato 1 milyan oo Oromo kama soo jeedsan karto صح ma garatay waan gartay marka walaal aynu isfahanno macnaheeda ma aha anigu meesha aan ka hadlayo iyo meesha aad bay u kala fog yihiin runtii markaan ka hadlo ma garatay صح waan ku gartay maxamed khadar dad badan baa ila sugahaya inaan waxaan fiican boontiga aan isla fahanno boontiga waan kula fahansanahay adna waa fahansan tahay walaal maxamed khadar baryootan Ethiopia awal ba inta oo kun oo sano intii ay ku haysatay waxay ku siin weyday maanta kuma hayso warcadsi ku tiri adigu Ethiopia matid war adigu shanti Soomaaliyeed baa ku jirtaa nin shanti Soomaaliyeed ku jira tahay la isma raacsho la iskuma rido ruuxaan ku rabin ma baqashay haddii aad isku kabto oo hadaad kabaha u baalashayso kabaha haddaan u baalashayo maxamed khadar oo labadeenaba haddaad maraykanka ka soo tagto anna jarmalkan joogay aan jarmal ka tago oon dhaho madaxweynahan kabaha u baalashaya weligay Ethiopia baa tahay lagu odhan maayo warneeho dhegeyso ninka la yiraahdo waa kugu ixtiraamaya fikirkaaga iyo taladaada anu cidna kaba u baalash kuma oranin daciifna iska dhig kuma oranin aan ku dhameeyo cidna kaba u baalash kuma oranin cidnana kuma oranin wax ka samee kuma oranin daciifna iska dhig kuma oranin anu waxaan kuu sheegay nin Soomaali ah tahay deegaan baad leedahay dhul baad leedahay kheyraad baad leedahay dadkaaga iyo dalkaaga midayso oo Ethiopia qayb ka mid noqo ma garatay oo seen oga noqon haddaba halkaas inoogu daa marka aniga adigu waan kala duwannahay marka seen ku midan karaa waaba la haystaa seen ku midayn maxamed khadar waxaan ku midan karaa qori caaradii ninkan qori caaradii baa dadka lagu haystaa qori caaradii baa yaa ku haysta Ethiopia haysata kuma haysatay adaa is haysta walaal de tan yarta walaalkaaba xabad ku dhufta warta lagu sheegay dhigeyso walaalkaaba ku dila walaalkaaba xabad kugu dhufta walaalkaaba ku xidha Ethiopia isma aragtaan Tigray isma aragtaan Oromo isma aragtaan Axmaara isma aragtaan ilaa maxamed qoraxay dhigeysanayo 30 sano siyaasad xumidii ummadan lagu waday ayaad ku socotaa ilaa iyo hadda dadkan in wax la baro oo fiiri reer dhigeyso Oromo maxay wax ku noqotay prime minister maxay ku noqdeen miya dagaalameen fiiri su'aal baa weydiiyay fiiri niyo dhiga hay u karinin miya dagaalameen Oromo miya dagaalameen way dagaalameen dagaalku ma aha xabad ma dagaal adiga Germany maxamed qoraxay fiiri adiga dagaal baad qaaday Germany baad hadda ku soo carartay ku soo dambeysay qaxootinimad ku dambeysay ayuu reeri inaad wadanka gudihiisa joogtid oo ka dagaalanto diyaar ma u tahay ma garatay anu diyaar ma u ahay صح wariyo dadka beenyeen u sheegina ma rabna inaan dagaalano inaan dhimanana ma rabno ma garatay islaan maskiina ma rabna inaan qaxino wadanka ha lagu laato systemka Ethiopia qaybaha laga dhax noqdo Ethiopia nimadana ha lagu dhax dagaalamo systemka Ethiopia waa in lagu dhax dagaalamo weey constitutionka Ethiopia waa in lagu dhax dagaalamo weey believe me maxamed khadar oo niyadaada u sheegay walaalkay arinta aad ka hadlayso fiiri oo arrin baan ku sheegay arinta aad ka hadlayso ana diyaar u ah inaan ka shaqeeyo ana jigjiga tagi qabri daara ana constitutionka Ethiopia ku dhax dagaalamay ana aad sabal igu xidhay ana xisbi mucaarad gudoomiye ka noqonay ma garatay ana diyaar u ah jeel inaan u galo ma garatay waan gartay adu Australia iyo London iyo Nairobi ka soo qayli oo dhahay Ethiopia way burburaysaa ku noolow riyada khayaaliga ee fictionka ku noolow Ethiopia way burburaysaa
محمد قرة محمد هدي لك محمد ولالكي محمد هل سؤال هل سؤال دردارك كاga tagaya hal su'aal dardaaran kaaga tagi walaalkay hal su'aal kaaga tagi wallahi ma garatay walaalkay hal su'aal kaaga tagi war dadka ina adeer maxamed dadka ina adeergeena waalin dadka marra inaan dhaano qoriga hal qaato qorxaybeed meeshii dagaalka la bilaabaad ka tiri ina dadka qoriga ku rabtid hadana hadana Ethiopia sudino dadka miyaad waalaysa ma adiga waalan ma anaga waalan qoriga dadka u dhintay haatan markii dadkii baabay meel laga soo noqdo raggii dhintay ma soo noqon oo may magdhabaysa Ethiopia waa yahay hay magdhaw ha keento wixii iga dhintay wixii jeel ku dhintay wax alaale haatan magdhawgeedan diyaar la ayaa dhahdo raggi oo socdan ha keento su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo sax adu caqligaaga ma isticmaashid ma nin indhalacda tahay qorigii waa aragtaa uu socon waayay oo laba wiil oo walaalaha markii dambe la isugu dhiibay qoriga un baad sii haynaysaa dabada ma garatay hatta qoriga seen waxay leeyihiin waraysiga ma dhamaayay nimay ma dhamaayay waan ku dhageysanayay ilaa anigu waan ku dhageysanayay ma garatay haye waxa weeyaan walaalow arrin marka aad ay ku socoto ee arrintu ay shaqayn weydo waa inaad arrinta aad bedesho oo wax kale ku bedesho waan gartay aynu sahano 30 sano baynu dagaal ku soo jiray صح كبدن iyo ka badanba ma garatay صح wadadii inaan hayno ma aha aqlib ma aha mar walba wadada inaan hayno waxan waxa weeyaan kolba si waa inaan ku dayno meesha صح qori mar waan ku daynay qorigii 60 sano inuu soo wadnay 60kii sano ee qoriga soo wadnayna faa'iido waynu ka helay anu malihi qorigii faa'iido ka beenaan helin صح bal qorigii faa'iidadiisi waynu aragnaa intuu ay dhan tahay aynu haddana qalinka fiirino ma dambi baa والله دم معه والله دم معه لكن سؤال هل سؤال الدين ولا هل مذا ولا عبد خضر ولا محمد خضر هل سؤاله ولا هذا iga soo هل سؤال عن كل شيء هل سؤال عن كل شيء هيقول دمني بالك انت حلقه هيقول دمني انا اادرو الهي با كوغو دارشي ان يو بوليس ما انت هدي اون الف حروت والله بالله او والله وان دارتay waana media intaas oo kun oo qof ayna daawanaysa on elf maanta hadday qoriga tiriso inaadan arkaynin Soomaali oo qori haysta baan sida wadkiga anugu baa on elf baa loogu dhiibay raggan hubka maanta on elf keentana waxa la oran ordayo geerin iyo adhibaad raac jirteen raaca la oran dadkeenana sidii gaariga oga carari oga gaban islaamuhu sidii gaariga xiinkiisa oga gaban anu waxaan garanayaa ka gaban gaari xiinka ayuu la yaado baan garanayaa kuwa yar anu waa hal qorxayo doodeena way dheeraatay kowdhe aad iyo aad macnaha dila kuri dadkana wax ka soo sii anigu luuqaasi soo gali doona maxal khabar war aniga haddaan ku sheego luuq waxba iga soo galin qorina aniga ii dhiibi maysid ma garatay waan ku soo gali qori dambe anu ma qaadayo anu adsabaan aadaya adsabaan ku dhex dagaalamaya keligay baa board inta qaata dhahayo ogaadaya ha noolaato ogaadaya ha noolaato keligay anu board adoo banaanka safaaraha Ingiriiska iyo Mareykanka ka mudaaharaad ee meelaha jooga safaaraha Mareykanka iyo Ingiriiska waa kuwa wadankii bixiyay weeye ma garatay laba nin oo ilmadeera aynu nahay baas ana neeliga adisaba ka soo bixinay marka soo noqonay ana ka soo bixinay doona adisaba marka ka soo noqonaysa neeliga halmaan billahi gaarigaaga iyo baasaboorkaaga ayuu lala haray oo soo noqday baan ku tusi wala war neeliga halay soo diro Ethiopia hadana qanay dabacada Ethiopia qanaa Ethiopia dabacada qanaaru annaga iskoorku soo jabinayna waxaas waa waxa la idinku qufulay weeye ee khayaaliga ma garatay waxaas waa waxa la idinku qufulay aad sabaad xuquuqdaada kaga dhex raadsan kartaa ku dagaalami kartaa hal lagu xidho hal lagu dilo oromo maxay heerka ku gaadhay xabad baa madaxa laga dhuftay waa la xidhay 20,000 oo oromo ah jeelka la geliyay waxaad rabtaan inaad waxna bedeshaan mana rabtaan inaad mudaaharaadaan waxaad ka cabsanaysaan aad sabab haddaan ku dhex mudaaharaado waa la idili sidoo rabtaan inaad xuquuq qabsataan marka dad jeel ka cabsanaya dad aan rabin qurbahan aad joogtaan oraaha niyo hay dambaajinayna nabadgeliyo niyo orada tag hayo soo qabo rag dadka kale ana dambaajinay orada tag niyo waxay rabaan dadkani waxay rabaan iyagoon la xirxirin in la dhaho kaalay wax qaata oo noqda la rabo saasay ku riyoonayaan ma garatay waraad sabab waa in idinku dhex dilo jigjiga waa in idinku dhex dilo waa inaad mudaaharaad bilowdaan waa inaad revolution samaysaan waa inaad kacaan samaysaan kacaanka waa inaad halka ka bilowdaan waa inaad ogolaataan inaad dhimataan nin walba wuxuu dhihi ma raba anu inaan dhinto
ma raba in la ixiro qurbuhuna rabaa inuu ka halgamo wama Canada iyo Mareykanka xoreynayna mise qabri daariya jigjiga iyo dhagax buur bayna xoreynayna Oromo mudaharaad bay wax ku qabsatay mudaharaad حتى شباب صدق سنة صوص عتى مجري مظاهرات بوحقوق قصتي ما لنا بالحرين سنة ضرب لنا بات كنت مظاهرات كلك تاني وانا تيجي كل نح مظاهراتان وقبل دارات كل نح مظاهراتان وقولي كل نح مظاهراتان هذا الذي شيء يا دتك ودن كتشوجا صباح مظاهرات كع وين لا إذا حلو وين لا يندلو ما فهمتين وين لا إذا لايو وين لا غلطان تا سيات شرف أو غلطان هذا الله dhalinyarada waddanka joogtay waxaan leeyahay dad u kaca oo dadka hogaamiya waa in la helo ma garateen waynu dagaalamaynaa iyo qurbaanno ka dagaalamaynaa iyo jaaliyad hebel baa shirtay jaaliyadaha ogaaday meeqa sano shirayeen 50 sano bay shirayeen 50 sano soo agar 50 sano shirayeen waxa ka haboon goday oo hal maalin lagu shiro wallahi billahi oo lagu mudaaharaado ma fahanteen windy goday oo lagu mudaaharaado hal maalin baa Ethiopia lagu mudaaharaadayo maalinkii waxa ay Cabdullaahi Maxamed Saacid goday لو مظاهرات أضياش أي مظاهرات ما نكينا إثيوبيا ودن بقلقلت أرمى أضياش يدي بقى أقلعت إنك بنتان علمودين كذي بقى الحرحرة تشيلش اللي قليه سعب كذي ولا لاي هوين كذي ولا لاي سوكع بنان كي ماذا وحي من ما نيسان وحي إذا كنت من كرا وإذا كنت من يا وحي الشرف تكون ولا رتل ونوانا يا كون قريها وتايدي من اللي يبوليسكا قولي هذا كون واحد سنة kuwan la booliska ay qoriyaha wata adeer waxaan leeyahay wiilka Oromada markuu mudaaharaday ciidankii Oromada ee liyu booliska ahaa way diideen inay carruurtooda laayaan they refused way diideen carruurtooda inay laayaan ma fahanteen way diideen carruurtiina halaynina haddaad laysaan carruurtiina Soomaa wallahi oo billahi oo tullahi ka aad u leynaysaan ayaa sida aad maanta ku sugan tihiin بريتو ليدك هوبك إذا كقاعد مركو عروتينا إذا كلايا والله بالله يطلع أو أبرارنا إنسان أو إنسان الله إنسان عيل بارود مني وان بابانا الله إنسان تذكيرنا وين أو قلاتنا مظاهرات ما قرأتين قلالا قولت هذا خدك كتير سوقفس كمان ما يصير ده هذا وانا قوله ما قرأت ورمضي بالله شريسا وان قرنا يا موت سواء كم قولي سيدو نولها دقالما أم باي أوروما برايم منستر لغاد إيه أوروما دي سوى الله شريان نو عرقنا هذا أو عديلي هاللي يقول بدلو هادو دولو سيجي بارا إنو عديلي هاللي يقول بدلو ما قرأت مدد أوروما دي وكالو دومانا يعني مامورة كرا إلهي وانا له مدد كاسا نميلو سيقو كيري كرا ما دي نيكي وحان أركيون أف أوروما كو هالله هايين عري بكاهي بشان بده برو بهره ونيجي قرما أورما برتي وأورما ومشرح أورما أبا ما قرأت والله بالله تلا أما أورما وكلا لونتا أما حمارة وكلا لونتا أما تجري وكلا لونتا شو بذكر ودن كدت كلا هذا معمولي مستقبل كمعمولي يا شو بذكر قدر قبل داري ريفولوشن بصباح سنة يا كعان الله يرضى ودن كتشوت كان عليها تكتيكات نكتا كوا قبل دارات نكتا كوا أتصالات نكتا كل وانا مظاهرات لم يد وانا الصباحان أورما حقوق ذا سلاسة كوهش أورما student كذا سلاسة كوهلين بنانك ما هذا أدر وأنا أقولاتان نقدمتان حداد أقولاو إذا نقدمتان سوما والله بالله نرش أسد كتير يسوي قدر قبل دار باسبور مريكان ووتا وحكي قال مره ما قرأت ونولان كرا أنا الديار دينا حتى أنا ديني ما لنا مظاهرات كذا كلا قيب كانوا إذا كنا باللعبة أنا تقدر سوق وصلنا سواء قولوا إن هذا ما قبلنيش والله وانك سوقفتي قولوا والله وبالله والله وانك سوقفتي قولوا ما قرأتي ما قبلنيش إن هذا ما حكوا قسمه يا قولت إله أمريكي سبحانه النيو بل نك أنا سوق بنايا ورد ما يك ما حكوا سوقفتي النيو ما قبلنيش ذي ما قبلنيش هذا وحن سوقفتي آدم بسي ما قرأت السلام عليكم ما قبلنيش والله تلفن كقبض قولت هذا قبلني نجد عيارته آدم بسي نيو سولو وكوده آديات صاحب آدم بسي هذيك على سؤال الربعين كويديو هاي شلي طول ميل فيسبوك آيات كومنتي لوجو سوق قري أو وحكو سوق قري أو نبات وحد كتري هاي عبد الرحمن ماذا باتري عبد الرحمن ماذا بان يجيستي باتري أو هالمر كلمة أفكيسة كما صوب بحين باتري الحرية ده كما صوب بحين
صح nin baa kuu jawaabay jawaabtii ma garanaysaa ها وان قرناي وان حسوستا jawaabtii dadkan u sheeg horta horta waad mahadsantahay cabdiqadar aad iyo aad baan ku salaamaya anu dadka inta u badan sheeg facebooka soo gala live-ka soo gala ma iga raali haddana iftiin ma joogo oo waad igu adkaysa caawa markaad saa usoo gashay baanu share ku qaba like ku qaba xaggan waxaan jeclahay dadka yacni fikirkiisa furfurayiin baa tahay falastiboolka ah ee jeclahay inaan doodi karo walaalow waad mahadsan tahay laakiin waxaan rabaa sheekada intaanan u gudbin ninkii kuu soo jawaabay reer ingiriiska ahaa jawaabta ku soo siiyey inaad sheegto dan baan ka leeyahay oo dadkaan rabaa inaan wax u iftiimiya xorriyaddii waa la iska daayay buu yidhi adiga iyo rag kale oo la mida dadkii loo dagaalamayay markaad nacdeen inay ahayd baan filayaa jawaabo badan baa laga bixiyey taas hadday tahay okay very good halkaa igu eko marka haddaba dadweynaha dhallinyarada meesha ku jirta ninkan aadan basey ah ayaa nin wuxuu yidhi cabdiraxmaan maadey sida aad sheekada ku maqlayseen cabdiraxmaan maadey buu yidhi waraysigiisa BBC-da dhegeysto xorriyadda kamuusan hadal buu yidhi dad ninkii ugu horreeyay u jawaabaa wuxuu qoray onlef xorriyaddii way iska daysay markii dadkii shacabka ahaa ay garan waayeen buu yidhi xorriyadda macnaheeda ma garatay si fiican aad iyo aad hadalkaasi waa sax weeye waa xaqiiqo weeye sababta taan idiin sheegaya onlef yaa u dagaalamaysaa waxay u dagaalamaysaa dadkay u dagaalamaysaa haddii dadkii ay u dagaalamaysay xataa kii waddankii joogay iska daa kii north america joogay oo calanka etoobiya wato onlef ilaahay baan idinku dhaarshiye maynay meel cidlaa ku dhimataba mise waa inay siyaasadda wax ka beddesho kii ay u dagaalamaysay hadduu yahay kan qoriga loo soo dhiibayo kii u dagaalamayana hadduu yahay kan dilaya iyagii warniyow dadku inay fekeraan baa loo baahan yahay ma garatay cabdiqadar aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaan jeclahay insha allah waktiga igu yar awgii waan xilli dambe ii tahay inaad insha allah waktiga isiiso anuu dhowr qodob baan rabaa inaan ka hadlo oo niyow horta aad baad umahadsan tahay fikiro fara badan baad ka hadashay oo meelo badan taabanaya mawduuca in badan aniga laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka hadlo inta badan aniga soomaaliya iyo aad macnaha eriyadaas uguma mashquulsani sababtoo taydiiba waxaa la yidhi tiisa daryeelaa tu kale yaa maxaa weli tu kala wax ka qaban kara teeniba inta badan yaa baylahsan horta dhibka jira waxa weeyaan siyaasadda 2017 inta badan soo baxday dadka dhamaashay gareeyay siyaasadda 2017 dad baa hadda ku cusub oo moodaa baashu inay yacni jibaysan oo karkeedu hadda ku cusub yahay oo aan inta badan waaqic ahayn ereygaasad ku soo celcelisay waa run inuu qofku waaqic yahay oo waxa jira ee saxda uu og yahay waa lagama maarmaan hadduu qofku indhihiisa inta badan yacni qarka ka tuurta wey shalay waxaan arkaynay iyagoo inta badan soo dhaweynaya oo aad ula jibaysan ra'iisul wasaaraha oramada la doortay waxa isweydiin mudan ninkii 32 sano soo halgamayay xabad soo ridayay dhowr iyo 20 kun oo qof ay kaga dhimatay dagaalkii uu ku soo jiray dhowr iyo 20 kun oo qof kaga qaxday kuwa kale inta la eg ay laga yaabo inay jeerish kaga jireen maanta ninkii EPRDF ah ee intaas Itoobiya joogay mabaadida Itoobiya EPRDF ku qanacsanaa wax ku soo bartay xisbiga ka mid ka ahaa doorashadiisii xisbiga dhexdiisii isagu isqa qabsaday yacni xukunka isku qabsaday doorashadiisii inuu ururkii gobonnimo doonka ahaa ninkii 32 sano soo dagaalamayay u dabaaldegaya anuu hadalka maadii markaan soo qaadanayay dan baan ka lahaa maadii ururka oo la farqi asaasay uu ka mid yahay wuxuuna dooda jimcaha loogu soo daray inuu ka hadlo ama fikirkiisa ka dhibto isbedelka Itoobiya ka iman kara ra'iisul wasaaraha cusub bal waxaad isweydiisaa xisbi isagu talada isku haysta oo isagu doodaya oo isagu wuxuu rabaa isku qabsado oo xisbiya ma aha Itoobiya weyn ma aha waa xisbiga EPRDF weeye waa afar waa قادر shir qaran qabto قادر هيستوعب هذيك والله بالله بيضان وعيا الشيخ شريف بان كاga dacoonaya waxay ku tusaysaa yacni hanyarida siyaasadeed bay ku tusaysaa cabdikhadarow ayaan daradan haysta weeye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo inta pointiga aan dhameeyo cabdikhadarow raal pointiga aan dhameeyo waxa weeyaan arrintan maanta Facebook markaad soo eegtay social media dhalinyarteena waxay ku mashquulsan tahay
laba qodob bas ah waa aflagaadada iyo macnaha dagaalka ay ku hayaan kilalka shanaad maamulka ka jira iyo soo dhaweynta iyo maxaan ku raadaay reereynta ka muuqata Oromiya marka waxaad is weydiisaa Oromiya iyadu keedii xumaa iyo keedii ficnaa iyo keedii halgamayay iyo keedii dimuqraadiga way midoobeen aadan basay dhegeyso aadan aniga hal arrin ka yeeli mahayo arrinta aan mar raba aanu ka yeelin waxa weeyaan ONF ba iyo Cabdiraxmaan Maaday baa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub waa been waxba kama jiraan mana uu soo dhaweyn okay waa aan ku dhameeyo fiir waan ku dhageysanaya i dhageyso ma fahanti haye Soomaalida dhibaatada haysta waxa weeye qofku markuu dhageysto ma dhageystaan عاودنا كدغيسنay 2 saac ka badan moodan 2 hours I respect you macnaha haddaan ka wada macnaha hadda labadana wada hadlayna moogtay waan ku dhageysanay dhageyso Cabdiraxmaan Maaday wareysigiisii waan u dhageysanay waxaana laga hadlayay political change-ga ka dhacay Ethiopia iyo saamaynta uu ku leeyahay dalka ma garat inta badanna wuxuu u jawaabayay nin kilalka joogay ayuu u jawaabayay oo lahaa waana la tashaday lahaa oo Soomaali ahaan u malayn cid la tashatay garan mahay aan u malayn oo xataa shacabaha oo siyaasi ahayn oo nin oday oo iska shacabaha ninkaas horta u jawaabay Soomaaliya waxaan rabaa inaan kuu sheego walaalow qofka bini aadamka ah wax uu san dhihin in laga sheego waa khalad bagarat okay ka gudub qodobka inaan horta ku doon hebel baa saayidiyay aan ku hadimay waxaan rabaa inaan hadalka saxnaan rabaa moogta okay ka gudub waxaan rabaa doodaada ka gudub erayga inaan ku murano anigu hadda yaani macna badan ma keenayso anigu doodana waan dhageysanayay qofku wuxuu si u fahmay buu ka hadlayaa adigu sidaad rabto u fahan ka gudub hadda waxaan rabnaa marka Soomaalida aan ka hadalay Ethiopia iyo waxa naga qosay kula muuqata maxaa talo u soo jeedinaysaa dadka Soomaaliyeed markay waxaan soo jeedinayaa dhalinyarta hadda inta badan siyaasadda ku soo biirtay waliba aan horay siyaasadda banaanka ama tii hubaysnayd aan ka mid ka ahayn bariyahan dambe social media siyaasadda social media ka qayb noqotay 2017 bilowday waxaan rabaa inay hamigooda kor u qaadaan markaan saalay waxa weeye Ethiopia horta waa Ethiopia ama ra'iisul wasaare ha tago ama mid ha yimaado ama ku kala ha joogo ninka mabaadida Ethiopianimada aaminsan laakiin aaminsan gobolkiisa inay xuquuqdii uu lahaa wax ka maqan tahay wuxuu ku doodi karaa hab la yaqaano oo mucaarad Ethiopianimada sida Oromo ma laha anagu Ethiopian manin Oromo waxay ku doodayaan waa in isbedel la sameeyo waa in dastuur ku shaqeeyo waa in maxaan ku radaa habka dawladdu ay wax u qortay ay u shaqeyso yaani nidaam noocaas ku doodaysa wadankii bay joogan dadka wax bedelaya Oromada ama barnaamijkan ku doodayana ma aha dad Yurub iyo kan iyo Hello عبد الخير ما مقشا هذا البلا waa dad wadanka gudihiisa jooga okay dhalinyartan marka laba arrimood la isma qabadsiin karo mar in Oromiya loo sacabtumo oo la yiraahdo isbedelka Oromadan soo dhaweynina iyadoo Oromo aan ognahay inay ka midaysan aan isku mashquulo oo mid la yiraahdo onlef weeyaan oo waa ubay iyo mid la yiraahdo waa dabaqoodi oo mid la yiraahdo baalki ninka maanta doonaya inuu cabdi ilay ka xoroobo oo dagaalkiisuba uu inta uu ku egyahay ma intayn leeg buu dagaal si cabdi waa shakhsi shalay buu yimid barina uu tagi karaa intayn leeg buu dagaal sii wadi karaa dagaalkiisa dhan wuxuu ku egyahay hal shakhsi okay qofka Oromiya soo dhaweynay ra'iisul wasaaraha Oromiya kaliya ay hamigiisu ay dabaaldegaya isbedelka bari haduu keeno uu ka rajeynaya uu imaan waayo intayn leeg buu hore u sii socon karaa marka waxaan leeyahay hoose Oromiya anaga waxba nagama gelin ninkii ku fikiraya Oromo inay wuxuu keenaysaa anu ma aaminsan wax Oromo naga dhax Soomaali bay wax naga dhaxaysaa kuwa Soomaalida ee oon lafta iyo kuwa kilalka jooga kuwaasay dantu naga dhaxaysaa kuwaasaan isku dannahay kuwaasaan isku dhibnahay kuwaasaan isku dheefnahay kuwaasaa u baahan inaan dantayada ka wada hadalno marka waxaan leeyahay siyaasadii way ka lumeen dhalinyartu dib ha u soo noqdaan marka gurigaaga aad soo hagaajiso iyo aad ku kala wax ka qaban kartaa marka waxa ay la tahay ninka doonaya inuu maanta gobolka u dagaalamo ama arrimihiisa ka hadlo ama xuquuqdiisa ka hadlo waa inuu xaqiiqada ku soo dhawaado oo uu ka hadlo dadka mas'uuliyadda haya ama ha xumaada ama yuuna xumaanin
kuwa mas-uuliyadda haya markaan runta isu sheegno aad baad u mahadsan tahay fikradahaaga anu qayb waan kugu raacsanahay waan ku ogahay kuwo badan baa halka ku dhihi waa jaajuus waa kan asoo dhanna waan la socdaa anigaba waagi waxaa jirtay waa aan website qori jiro oon Egypt joogay Masar ma garatay cabdiqadar cabsi kama qabo anigu yani in wax laga sheego dadka waa suuday ninka la yiraahdo aadana maanta hay si fiican marka dadka nooca ana anu waxaan leeyahay dhig jilaq ha u siinin ma garatay hawshaada iyo fikirkaaga sida u wado ma garatay sababta si fiican I know I understand anu waan fahmaya aniga oo website qora oo xuquuqdooda u dagaalama oo dhibaato ay iga soo gaadhay iyaga dartood iga soo gaadhay yalla caayay ma garatay wallahi hadda been kuma sheegay ma garatay si fiican adigu walibana waagaas waxaa ahayd kuwii caayi jiray baa saaxiibo la ahayd ma garatay wala laha hadii leebel maagan yihiin haddu jigjiga u socdaa telefoon buu kula hadlaa ma garatay si fiican kuwii ilaahay amarkii kuwii caayi jiray baa iiga horreeyay jigjiga waxyaalaha cajibta ah ma garatay kuwii aniga caayi jiray baa jigjiga iiga horreeyay marka waxaan waa dadka waa naqaanaa dhaqankan iyo waxaan oo dhan waanu garanaynaa ma garatay hore baa loo sheegay waxaas dhimana marka aad baa u mahadsan tahay niyo doodaada aad igala qayb qaadatay arrimo waan kugu raacsanahay arrimana waan kaaga soo horjeedaa aad baa u mahadsan tahay qof kale aan soo gelinayaa cabdiqadar waxaan rabaa inaan siiyo asxaabta kale hal qodob baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo cabdiqadarow waxaan rabaa horta in lagu caayo macno ma sheegayso waxaa la yidhi ninkii durbaan qaatay ilaaq dalbay baa la yidhi ma ogtahay sax ninka siyaasad ka hadla ama siyaasad galay in la caayo iyo in la aflagaadeeyo anu waxaas uma arkay inay wax macno la tahay adigana waa lagu caayo qof kasta oo social media soo gala muhiimaddu waxa weeyaan inuunan qofku ka cabsanin waxa la odhan doono uu runta ka sheego waxa uu aaminsan yahay waa intaa muhiimaddu anu shakhsi iyo laba toonana ma tixgelinayo waxaan ka hadlayaa sida saxda ama waxiila muuqdaan oo adigana waa laga yaabaa ama inta kale ay daawanaysa ama in kale oo aanu kala aragti duwanay inay jirto inagu raacsanno way jiraysaa marka dadkeena halka qodob ee aan kusoo gabagabeynaya waxaa weeye cabdiqadarow dadkani maslaxa nin walba u gaar u ilaashanaya hal nin oo maslaxada shacabka soomaalida ogaadinaya ka fikiraya ma jiro waa nin kursi raba iyo nin kursi ilaashanaya iyo ku sii socda weeyaan intaa waa inaad ogaato waa nin kursiga uu ku fadhiya maanta ilaashanaya iyo mid ku sii socda oo intaa u xiiqsan weeyaan aadna waan kuu salaamayaa aad baad u mahadsan tahay muhiimaddu waxaa weeyaan saad sheegtay aadan waxaa weeyaan sidee guul ku gaari karaa inaan ka hadallo ma garatay sidee loo helaa dad hogaamiyayaal ah oo daacad ah oo ummaddan hogaamiya oo mustaqbal wanaagsan u sameeya ma garatay sidee loo helaa dad wanaagsan oo ummaddan isku soo duuba sidee revolution kacaan wanaagsan mataqaanaa ii sheeg ummaddan la isugu keenaa yaa ummaddan isku keeni kara yaa hoggaan noqon kara yaa ummaddan xuquuqdeeda iyo mustaqbalkeeda iyo danteeda ka hadli kara yaa ummaddan hoggaan u noqon kara muhiimaddu waa intaas cay iyo kooxaysi iyo gurub iyo subankar iyo qoladana noocana iyo qoladana waa dulmidiid iyo qoladana waa reer hebel iyo waxaas waxay keenayaan oo ilaahay abuurtay ama jirto subankar wax alla waxay keenayaan ma jirto anu waan sheegay horey baan ugu sheegay wallaahi Ethiopia inaanaan waxba kaga qaadanaynin inta aynu koox u shirayno ee reer aan u shirayno ee aynu beel u shirayno ee nimba ninka kale cadow ku yahay ee nimba ninka kale uu mataqaanaa isha uu iska ilaalinayo ee nimba ninka kale uu rabo hebel dirti inuu Ethiopia saaxiib oo la noqdo si uu uga argoosto subankar ingiriiska la weydiiyey waxa la yiri ingiriisow Soomaalida si looga adkaadaa buu wuxuu yiri Soomaalida iyadoon baa la isku diraa subankar Soomaalida iyadoo la isku diraa buu ma garatay sayidkii markii aan ka adkaan waayay ciidan baan u sameeyay buu Soomaali ah waa runtii ciidan Soomaali uu sameeyay oo qabiilooyin Soomaali uu sameeyay ma garatay Ethiopia waka all of markay ka adkaan weyday ciidan Soomaali ay samaysay war Soomaalida mushkiladan taala ee iyadu mar walba ay isjabiso ee cadawga isku soo raacdo Soomaalida waxa la dhahaa cadow shisheeye kalkaal weeye Soomaalidu ma garatay xagee sidee looga gudbi karaa taa laftigeeda in lagu soo daro weeye mustaqbalka mushkiladda Soomaalida ma garatay waxa weeyaan nimankan oo laf baa ku soo haray
anu de nimanka oo lafta credit badan baan u hayaa reality markaan ka hadlo ma garatay sababta tahay anu warkayga hore baan u sheegay niman yahow siyaasad ahaan habka ay wax ku wadaan anu ma taageersani laakiin credit weyn baan u hayaa creditka weyn uu hayo waxa weeye ilma adeeryaal oo gaalka dil gartiisana sibaa leeyahay nimankanu waa geeseyaal anu waagaan soo qaxay iyagu wadankii bay joogeen oo ku hareen oo xabadda laabta u dhigeen tii anu markaan soo cararay fuliga noqday ninka laabta xabadda u dhigay haddaad credit anu aan siin waayo yaa siini tigreegi baa credit u ogol xataa tigreegi baa u ogol eeg ninka tigreega ah haddaad weydiiso oo laf waa maxay haddaad tidhaahdo waa jignaali jooji buu dhihi jignaali jooji waa wiilal rag ah ku dhihi waa niman rag ah oo mowqif leh ku dhihi oo go'aan leh laakiin kan soomaaliga ah ee oonarf la dhashay wuxuu dhihi halkan uu la soo fadhiisanay waa ubbo waa caqli xumida soomaalida wey caqli xumida soomaalida wey iyo soomaalidu sida xun ay u fekeraan ma fahantiin soomaalidu sida xun ay soomaalidu u fekeraan ee ninka kale la rabo in lagu taago ilaa soomaalidu dhaqanka nooca ay ka tanaazushana wallaahi iyo bilaahi iyo tullahi inaysan waxba noqonin iyo bilaahi iyo tullahi waan dhaartay ma fahantiin wax alla waxay noqonayaan malaha soomaalidu waxba ma noqonayaan maalin boqol boqolaa yaa u adeegayso ma garatay maalin boqol boqolaa u adeegayso maalin boqol boqolaa iyo dabada u dhaqayaan ma garatay oo kabaha u baalashayaan ma fahantiin caqliga nooca in laga fikiro weeye ma fahantiin caqliga nooca dhalinyaradiina meesha joogta idin sheegaya hadda dhalinyaro badan baa meesha joogta oo onlaf taageersan oo DDS taageersan oo waxan oo dhan taageersan waa inaynu keenno fikir iyo caqli ah onlaf waynu aragnay DDS-na waynu aragnay maxaa bedeli kara labadooda wax bedeli kara oo onlaf iyo DDS bedeli kara ma haynaa maanta waa maya ma hayno okay haddaynan haynin labadoodiiba waa awoode oo midna ciidan iyo taageerayaal buu haystaa midka kalena taageerayaal buu haystaa iyo ciidane sidaynu isugu keeni karaa labadoodii waa inaan ka fikirno sidee la isugu soo dhaweyn karaa sababtahay laba cudud waa in la mideeyo Soomaaliya waa in la mideeyo weeyo caqliga nooca la rabo in la mideeyo waa nooca ma fahanti haddii ninka laakiin aqoon-yahanka ah niyo ma qarxiyaa magacyadooda wixii ka dhacay ka dhacay nimanka aqoon-yahanada ee hadda aqoon-yahan baan lahay leh ee dibadaha jooga ee deegaankii ka soo jeeda ee hay'adaha samafalka u shaqeeya iyo kuwa dawladaha u shaqeeya ee OLF-na waa tuug DDS-na waa tuug ee isagu Tigreega raba inuu la shaqeeyo iyo oramada ka warramay isagu ka isagu ka warrama wuxuu ku dhihi OLF waa tuug DDS-na waa tuug isaguna wuxuu diyaar u yahay oramada iyo Tigreega inuu la shaqeeyo ma garatay ka warrama kaas ilaahay idinku dhaarshiye ka warrama kaasaan waxaynu dhahaynaa qolyaha noocaas u fikira soomaaliya ayaa waxaan dhahaynaa haa war ma aha waxan oo dhan ma aha kama aha wadaniyad iyo dal jacayl iyo dad jacayl kama aha waa rag iska dhicis weeye ma fahanti rag iska dhicis weeye wallahi billahi inaysan wax kala ahayn soomaaliya waa caqliga soomaalida ma garatay waa rag iska dhicis wuxuu ku dhihi oo lafti waa tuug DDS-tuna waa tuug way wada shaqaystaan buu ku dhihi way wada shaqaystaan okay xisbi baa hadda laga aasaasay qurbaha xisbiga waxaa la dhahaa cadaaladda iyo horumarka la dhahaa dhammaan xisbiga ragga guddoomiyaasha ka ah oo dhan iyo ragga xukuma oo dhan xisbiga ka xukuma kulligood kililka waxay ka soo ahayaan baarlamaan nin aan lacag soo dhicin ma jirto nin aan dad soo xidhinna ma jirto nin aan dad soo dilinna ma jirto haddana waxay leeyihiin cadaalad baan wadnaa war cadaaladdan aad hadda waddo waagaad xildhibaanka ahayd ee guddoomiyaha ahayd ee qabri daare iyo dhagax buur iyo wardheer aad joogtay cadaaladdan ma hadday kugu soo dhacday bal runtaa la rabaa in la isku sheego mogta cadaaladdani ma hadday kugu soo dhacday cadaalad ma rabtid beenaalaad tahay khaa'in baa tahay tuug baa tahay ee xukun doon baa tahay subangar annaga runta u sheegayna ma fahanti xukun doon baa tahay waxaadna rabtaa inaad lacag soo dhacdo hantina soo dhacdo hadhowna aad soo cararto haddana ma fahanti sidii oo kale aad rabtaa intaad lacag soo dhacdo haddana aad soo waxayso ma jirto dhalinyarada waddanka joogta ee DDS waxaan leeyahay dhegeysta si fiican ii dhegeysta dhalinyarada DDS ee waddanka joogta waxaan leeyahay waddanka idinkaa wax ku bartay idinkaa aqoon leh nin qurbaha jooga oo waddankiina ka soo cararay oo qurbaha jooga wuxuu idin wadaa waa qurbahan waxa lagala tagaan idin sheegaya horta sideedaba
qurbaha waxa lagala tagaa idin sheegaya qurbahan waxa lagala tagaa cudurro mental health oo depression iyo stress iyo in wax la boobo iyo in wax la dhaca intaas lagala tagaa dadkani aqoonta idin sheeganaya badankooda inay wax dhacaan bay Afrika u soo aadaan in wax la boobo kulligood guriyaha lagu leeyahay iyo baabuur lacagtii iyo guriyihii ay meesha ka gateen iyo rabaan lacagta ku bixin lahaayeen inay boobaan oo hantida ummadda dhalinyaradiina wadanka joogta ee wax baratay is abaabula idinku xisbi samaysta idinkaanu idin taageerinaa wadanka idinku hogaamiya oo cadaalad ku hogaamiya oo wiilkaas oromo ee kale ee madaxweynaha noqday oo kaleeto noqda oo dadkiina qabsada oo wadankiina qabsada we support you idinkaanu idin taageerinaa dadkan ururada isku sheegaya ee cadaaladda iyo arrimaha bulshada iyo waxan shubaya ee qurbaha nagu wareeriyay ee shalayna dadka soo leynayay ee qaarkood jaajusiinaha qaarkood jaajusiin bay ahaayeen waa la yaqaanaa hebel iyo hebel jaajusiin bay ahaayeen qaarkood nin jaajus ahaa 96 iyo 4 nin jaajus ahaa cadaaladdu hadda noo sheegay maxay tahay 96 iyo 97 iyo 98 iyo 2 kun nin jaajus ahaa cadaaladda uu raba hadda inuu noo sheego oo qurbaha ka qaadayo maxay tahay what fucking cadaaladdu noo sheegay maxay tahay samagar no way cadaalad nooma wado dadka inuu sirana ma ah waa waxa Soomaaliya khiribay way Soomaaliya wada aragteen Faarax Macalin la yiraahdo wuxuu Soomaaliya waxa khiribay buu waxa khiribay buu taksiila xildhibaana ma garatay taksiila xildhibaana hadda dadka qurbaha jooga wadankii jijiyadii bay rabaan laftigooda inay khiribaan taksiila xildhibaana tuu xildhibaana beeraale khaa'in bad credit wixii oo dhan baa raba wadanka inay wada khiribaan oo ururo siyaasadeed iyo xukumo u samaysanaya ma garatay no way ma dhacayso midaas ma dhacayso dadka la siri ma hayo dadka la khaa'imi ma hayo no way dadka naga lama sirayo tuu qurbaha jooga wadanka ma sirayo dadka naga ma sirayo annaga dhalinyaro ah annaga wadanka wax ku soo baranay annaga mas'uuliyad laga saaran tahay annaga dadka u hadlayna annaga dhalinyarada u hadlayna annaga abaabulayna dhalinyarada wadanka joogta idinku is abaabula kuwa gudaha joogana banaanka joogana annaga idin keenina annaga mas'uul ka noqonayna waxaan rabnaa cadaalad iyo horumar iyo dimuqraadiyad ummadeena inaanu hogaamino in dad dhalinyaro ah oo aqoon leh oo wax bartay oo ummadooda gacanta ku dhiga hogaankooda gacanta ku dhiga in la helo weeyaan waa laga maarmaan in la helo waa inaan social movement samayno ma fahanteen that is the facts waana nin walba oo dhalinyaro ah oo qurbaha jooga oo dhalinyaro ah iyo ka gudaha jooga taa waa inaanu ku fikirno siyaasiyiin 30 sano siyaasadda kililka soo kharibayay oo siyaasadda wadanka soo kharibayay inay annaga mar kale shaatiyo kale noo soo bedeshaan oo ay noo soo qaataan shaatiyo urur siyaasadeed noo soo qaataan dhalinyarada wadanka joogtay don't accept ha aqbalina soo maqlaysaan nobody should not accept it sababtoo ninka siyaasigu wuxuu rabaa intuu lacag aruursado inuu dictatoriyadii noocan oo kale ee uu ka soo dhaxlay systemkan xun ee hadda Ethiopia ka jira uu ka dhaxlay inuu wali ummadda ku hogaamiyo rabaa sangare ummadda wali hogaamiyo rabaa ana idin sheegaya dhalinyaro bishii 2 mar 3 mar baan soo galayaa dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee social movement-ga halkan inuu ka bilaabayna halkan ilaa jigjiga online laga soo galo halkan inuu ka bilaabayna halkan xisbiga cadaaladda iyo xisbiga dimuqraadiyadda iyo xisbiga arrimaha bulshada iyo xisbiga midnimada iyo waxaas wax ka shaqeynaya ma jirto xisbiga waa in lagu aasaasay jigjiga gudaheeda waa inay dhalinyarada aqoonta leh aasaasaan dhalinyarada jaamacadaha soo dhigta kuwa jigjiga dhigta jaamacadaha dhigta waa inaad systemka dhex gashaan systemka Ethiopia idinku dhex gala idinku xisbiyada sameeya idinka dadku idin taageerayaan dadkiina idinka la jooga biyaha u dhaamiya dadkiina badbaadiya cadaalad u sameeya caafimaad u sameeya dadka idinku kasbaa saasa ummadda aad xisbigiina aad ku guuleysan kartaan that is the reality ma garat nin iska jooga Nairobi oo hay'ad samafal u shaqeeya ama iska jooga London ama Mareykanka iska jooga oo qaarkood ay u shaqeeyaan qaarkood maxay u shaqeeyaan wallahi billahi been baa u malaynaysan qaarkood waxay u shaqeeyaan gudniinka fircooniga ah sida loo ciribtiri lahaa gudniinkaaga fircooniga waa run in la ciribtiro gudniinka fircoonigu waa dhibaato gabdhaha ku yahay dumarka ku yahay ma garatay in la ciribtirana waa loo baahan yahay warniyo adigu gudniinkaaga fircooniga ku mashquul iyo hawlahaagan iyo arrimahaagan hay'adaha ku mashquul
arrimahan siyaasadda iyo dadka faraha uga qaad been baad rabtaa mashruuc baad wadataa ma garatay dadka hawaalinay ma garatay been iyo khiyaali baad wadataa waxaa rabtaa inaad welibana qaarkood waxay ku fekerayaan attitude khaldan ninka siyaasiga ah ee dhalinyarada ee aqoonta leh ee maraykanka ama kanada jooga ama yurub jooga ee ilaahay baa idinku dhashay ku fekeraya ka waran siyaasadda etoobiya soo gor si aad reer hebel ooga arsato iyo reer hebel war ninka noocaa ku fekeraya muxuu ummad hogaamin karaa ilaahay baa idinku dhashay muxuu hogaamin karaa ninka noocaa ku fekeraya qurbaha jooga muxuu ummad u keeni karaa wanaag waaba naqaanaaba saasuu ku fikerayaaba ma garatay ma jirto dadka gobolka degan ummadda deegaanka degan waxaan farahayaa gaar ahaan dhalinyarada farayaa gabdhaha iyo wiilasha aan farayaa gabdhahana waxaan farayaa naa gabdho fadhiga ka kaca facebooka soo gala movement sameeya dhibaatada ugu badan idinkeedu ku dhacdaa idinkaa jeelasha ku jira waa in aad ragga hogaamisaan idinku haddii raggu uu ka soo bixi waayo doorkooda uu ka soo bixi waayo idinku waa inaad dhaqdhaqaaqdaan waa inaad lamid noqotaan gabdhaha kale ee Etoobiyaanka ah ee xuquuqdooda u doodaya ee kacaya waa inaad noqotaan ma fahanteen aroos una suginay ma garateen haddii aroos la idin dhigo xagee la idinku aroosi meesha la idinku aroosi lahaa rag baa haystay xoog ku haystay ma garatay kaca oo xuquuqdiina u hadla oo dhibkiina ka hadla oo dadkan kaca oo social movement ka qayb qaata gabdha idinkeena ka mid ah idinka kala yaa adduunyadan qaybo dhan xoreeyay oo women feminist theory dumarka xuquuqdooda u dooday oo xuquuqda carruurta u dooday oo xuquuqda dadkooda u dooday halla oo kaca anu intaas aan kula dardaarmaya cid aan soo qabanayna ma jirto 2 saac iyo barban u ku jiraan maleen meeshan waxaan leeyahay waan kula dardaarmaya inaynu fikiraan loo baahan yahay oo maskaxda inuu maalmo ma fahanteen maskaxda inaynu maalaa loo baahan yahay midnimana aan kula dardaarmaya iscafis baan kula dardaarmaya aniga ninka liyu booliska ahaa ee dilay walaalkay dilay ee abtigay dilay ee adeerkay dilay maanta hadduu wax ku fahmayo waxaan leeyahay walaalaynu nahay khalad baad gashay khaladkii aad gashayna waan kaa cafiyey kaalay aynu gacanta isqabsanno hal meel aynu kasoo wada jeedsano soo war cad ma clear message soo ma maanta cashar ha kugu filaato wixii dhib ee ku soo gaaray ee anna adigu soo gaarsiis laakiin maanta laga bilaabo aynu isku meel kusoo jeedsano dadkeena iyo dalkeena aynu ilaashano oo badbaadsano soo intaasaan kaga baxayaa dhowr qof baa leh soo jiid laakiin 2 qof baan soo jiidayaa kadibna waan soo xirayaa yaan soo jiidaa tolo markaas yaan soo invite garayaa ilaahay amarkiisu badana naag baaba meeshan online-ka ii soo noqotayba oo soo qoratayba magacay soo qaadataaba la yaab leba kulaha Khadiija Gabre weligiin waxaas ma aragteen Khadiija Gabre waa Khadiijo iyo Gabre oo la isku daray ma garatay wallahi billahi tallahi wallahi Facebook wax walba aad ku arkaysaa ma garatay Khadiija Gabre ma garatay wali ma joogtay ustaad uriyaan soo qabtaade bal ninkan aan soo qabanaya revolution wata Yusuf ma fahanti okay revolution uu qaban waaye Ahmed Haj Farah waa ayo tolo Ahmed Haj Farah aan armaan garanaya okay warniyow cid soo qabanaysa ma jirto horta Yusuf ana aqaanay dadkoo dhan baan waxaan u malaynayaa ciladu meeshan ay ka jirtaa waxaan oo dhan baan wada tuurayaa Yusuf hadda gacanta soo taagtay wixii raba inaan soo qabto gacanta hadda soo taagtay wixii raba inaan soo qabto hadda gacanta soo taagtay ma fahanti kana waan ka jaray decline buu yidhi Axmed Faarax uu decline gareeyay ma garat okay anyway niyow sheekadu waxaan ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar kale hawada ka kulmayno waxaan leeyahay habeen wanaagsan maalin wanaagsan inta habeen u tahay inta maalin u tahay fadlan sii share gareeya qof walba share gareeya si saaxiibada ay fikirkan u gaadho habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.